Salaamo ku soo dhawaada YouTube channelka Drama Somali maanta iyo musalsal cusub oo lagu magacaabo Hiding Love. Tiriishadana waxaa lagu magacaabaa Sanjay waxayna arkaysaa baabuur kaasoo ku jira alaab iyadoo fiirinaysa waxaa gadaal ugu imaanaya tooreen waxaana galeynaa xasuus markay yareyd 3 sano ka hor maalin iyadoo cashirka la wada qaadanayo fasalka lagu jiro ay ka mashquushay cashirka macalinkan wuxuu dhahay waalidkaaga bariikeen asxaabteedu waxay rabeen inay isku raacaan maktabadda laakiin si iyada maalinkeed ma saxnin saas awgeed guriga ay isku soo aaday guriga markay timid waxay ogaatay in uu walaalkeed imaaday inay rabtay inuu imaado kabacdi waxay arkaysaa tooreen waxay u malaynaysaa walaalkeed waxay maraysaa qaliin ma isku sameyn walaalkeedna midaas uu ka xanaaqa laakiin iyada way is-oosinaysaa hooyadeed ayayna u sheegaysaa walaalkeedna sidii ayaa lagu ciqaabaya waxaase la sheekaysanaya iyada iyo atooraheena daandasho dhanka xiga subaxii intaysan arkin atooraheen waxaa arkaynaa subaxii hore intaas inay walaalkeed ay guurinaysay hostelka ayna ka cusubtay inay guuriso ugu dambeyn walaalkeed uu ka ogolaanaya bacdul school markay ka imaato waxay soo aadaysaa hostelka walaalkeed uu ku noolaa waxay arkaysaa baabuurka aabeed laakiin waxaa saarnaa alaabta daandasho atooreen ah kabacdi isla soo qaadaya waxay isla soo galayeen qolkii iyada walaalkeed iyo atooreen daandasho isla degan yihiin asxaabtiisa kale waxay isbaranayaan asxaabta walaalkeed waxayna fiirinaysaa alaabta atooreen daandasho atooreen wuxuu leeyahay waxaa aaday shaqada part time-ka tiishadan wuxuu dhahay haddaa jeceshahay qaado boonbalaha laakiin iyada waxay meesha u dayaysaa buugeed kuweeshanka habeenkii markuu shaqada kasoo laabto walaalka tiriishada walaalkeed wuxuu dhahay maxaa isku ilaawdeen tiriishada markaas walaasheed maxaa isku ilaawdeen sidan wuxuu dhahay wax maku ilaawin laakiin buugeed ay meesha aan u tagto dhaha buugeed waxay dhahaysaa iga soo shaqay laakiin asu wuxuu dhaha qalad waa inaa kaa shaqay laakiin waa kugu caawinaa subaxii waqti xayuu soo kacay saacada mobilka saarna subaxii marka la gaaro waa isa soo diyaarinaysaa waxayna soo aadaysaa meesha basaska laga raaco way imaanaysaa laakiin atooraha meeshay kabaanaysaa waxaana galaynaa xusuus 3 sano ka hor maalinkaas waxay ku ballamay atooraha inuu iyo walaalkeed u matalo oo iskuulka u imaa macalinkan uu fasax qaado laakiin wuu kusoo dahay laakiin wuu imaanaa ugu dambeyn waxay isku soo raacayaan macalinka haddana xusuusta kasoo laabanayna waxaa arkeen atooraha inuu imaaday uuna kala shaqeynayo xisaabtii ku adkeed wuxuuna kafeteeda agtiisa fadhiisnaa wuxuuna usoo gadaya qurac haddana waxaa arkeenaa xusuus 3 sano ka hor waxay soo aadayaan macalinka uu imaana wuxuuna iska dhigaa inuu yahay walaalkeeda kaweyn macalinkan wuxuu u sheegaya waxyaaba iyada ku xuntaa waxbarashada ku fiican doo dhaa laakiin cashirka marka loo qaadanayo way ka mashquulsantahay laakiin inuu macalinku yaraalgelinaysa ugu dambeynna waxaa kasoo laabanayna xusuubta wuxuu keenaa iskuulkeeda wuuna macsalaameynaa haddana waxay is arkayaan asxaabteeda way sheekaysanaa waxayna soo aadaysaa galaaska habeenkii ayaa la gaaraa iyadii hoodeed waxay dhahayaan aabeed waxaa aadayna aroos manoo raacaysa isbuucan iyadana way diidaysaa ugu dambeyn hoodeed waxay dhahayaan walaalkaa subaxii kula jooga hostelka wuu kasoo laabanaya ayay dhahay subaxii dambe wuxuu dhahaa soo bax quraaca isku raacayna maqaaxi iyadana way diidaysaa laakiin waxay maqlaysaa walaalkeeda mobil ku hadlaya oo dhahaysa asxaabtii waa is wada raaceen markaas waxay dhahaysaa waa quraaca wayn isoo wada raacaan waxayna imaanayaan maqaaxida waxayna hore wadada ugu soo marayaan atooreen daandasho wayna soo wada raacayna dhammaantood waxayna soo wada aadayaan maqaaxida markii ugu dambeyn ay imaanaan walaalkeed wuxuu dhahaa meeshaan baaki ma ahan orod sii xaro baakina soo gelina laakiin iyada waxay dhahaysaa kula jooga wuu diida laakiin ugu dambeyn way iska soo xaroonaysa waa lasoo wada quraacana waxayna soo aadayaan meel lagu baashaalo tiriishada boonbalo inay soo baxstay rabta laakiin ma aqaan sida usoo bixinaysa laakiin atooraa usoo saarayo aadeen ugu farxaysaa midaas wayna soo wada raacayaan subaxii dambe waxaa arkaynaa iyada saaxiibteeda waxayna isku soo raacayaan mid kamid ah saaxiibadood oo dhalashadiis ah intaysan soo aadin waxay imaanayaan kafeteeri oo atooreena ka shaqeeyo laakiin wuxuu dhahaa lacagay siinaysaa mamacaanka laakiin wuu diidaa laakiin mamacaan loo siinaa anaa kuu iibiyo dhah iyagoo macaankood cawaaya waxaa imaanayaan dadkay sugaya tiriishadii saaxiibteed way soo wada raacayaan waxayna soo aadayaan xafladda dhalashada wiilkan intay soo bixin ka hor laakiin wiilkan wuxuu dhahaa walaal maxaa idinka taajiriin ma ahayn walaalkan maxaa inta ugu shaqeynaa laakiin iyada warkaas iska xidhay dhehaysa way usoo laabanaysaa atooraha waxayna u malaynaysaa inuu lacag la-aan hayso maadaama ay maqasho manajerka isoo isla hadlaya lacagay meesha u saaraysaa way ka cararaysaa atoorahan uu fiirinaa wuuna iska qoslaa way waalanta oo dhaha xafladda dhalashada la gaaraa iyo dhan waxay bilaabay inay u hambaliyeeyaan wuxuuna rabaa inuu tiriishada meeshaan jecel uu sheegta tiriishada waxay dhahaysaa waxaa u baahnay inaa guriga aad wayna soo cararaysaa laakiin tiriishada saaxiibteed aaday ugu xumaanaysaa wiilkan wuxuu dhahaa idinka sii jara keega ana iyada sii raaca iyo dambe soo raaca laakiin atoora wuxuu arkaa wiilka gabarta tiriishada la taagan sina uu imaana laakiin wuu cabsanaa wiilka wuuna cararaa
sin lacagteeda u celina wuxuuna dhahay waxbarashada diiradda saaro jecel ku mashquul in wixii dheesa waxaas aan xitaa mideen waxbarashada ku mashquul maalinkii dambe arkeenaa tiriishada saaxiibteedna way ka xanaaqsaneyd waan iska intireysaa maalinkaas oo dhan tiriishada way la hadlaysaa laakiin si u jawaabayso maalinkan wuxuu dhahay waxaa kugu daraa tartanka bootinka iyo wixii dheesa jilbaaliya wuxuu dhahay waa lagu daraa ugu dambe iyadana way ogolaanaysaa saaxiibteedna way iska intireysaa tiriishada la hadashay rabta laakiin midaas way ka xanaaqan waxaa la gaaraa maalinkii tartanka waxaa bilaabanaya wiilasha qaybtood iyo orodka taageerayaashana waxay u dhiirigelinayaan laakiin ugu dambe waxaa guuleysanaya tooraha waxaa guuleysanaya tiriishada wiilka jeclaa iyo sin wuxuu dhahay hadda la iskadoosiin rabaa koobka idin waxay dhaheen nasiib wacan iyo waxaa bilaabanaysa haddana qaybta gabdhaha tooraha madaxuu koofid u gelinaya indhaha iskaga ceeli qoraxda oo dhaha meesha cabaar dhul baashaar waxaa bilaabanaysa tiriishada tookadeeda lasoo gaaraya iyo bootinka laakiinse iyadoo ordeysa ku guuleysanayso meesha dhaawac kusoo gaarayo waxaana soo qaadaya tooraheena aadaan loo naxaa waa lasoo wadaa waxaana la keenaa meesha dhaawaca loo daya ardayda wax ku gaareen toorahan wuxuu bilaabaa inuu dhaawaca ka dayo walaalkeedna wuxuu bilaabaa inuu usoo gado biyo iyo waxaas markii ugu dambeyn dhaawaca laga dhayo walaalkeedna uu keena biyaha way wada cabayaan wuxuuna usoo wadaa guriga toorahan wuxuu arkaa gabar kale dhaawacanta tiriishada waxay ogaanaysaa waxay dhahaysaa keligii anima ii diiran in dadka dhan usan ugu diiran yahay midaasna kastoo aad ugu murjinaysaa maadaama kastoo fiilan ay u heesa maalinkii dambe waxaa la gaaraya maalinka kale ee iskuulka sida caadadeeda tiriishada saaxiibteed way ka xanaaqsaneyd laakiin iyadoo walaalkeed la hadlayso waxaa la adaan daashuwa kusoo wadaa istiyaari iyadoo istiyaarinayso waxay arkaysaa saaxiibteeda usoo laabto waxay dhahaysaa soo baxa meel isku raacina iyadana way ogaanaysaa atoorahan iskuulka imaana waxaa waxaa la ma joogaan ardayda sin wuxuu bilaabaa inuu raadiyo tiriishada iyo saaxiibteed waxay isku soo raacayaan meel waxay dhahaysaa supermarket wax kasoo gadanaa laakiin saaxiibta waxay u wadaa meel kalo waxayna dhahaysaa meesha ay raaciyeen waxay dhahaysaa meel loo qaamo halis waa magaleen laakiin iyadu way galaysaa tiriishada saaxiibteed in wuxuu bilaabaa waxay bilaabaa inay ka daba ordo tooreen sidoo kale waxaa loo soo tilmaamay meeshay aadeen waxaa arkaynaa tiriishada saaxiibteed oo meesha looga hanjabayo oo lacag keen la dhahay gangistarada iskuulka ay heleen iyadana waxay dhahaysaa saaxiibteeda ninkan lacagta ka qaadanaya waxayna bilaabaan boorsada yariista ay jeceshay inay ka qaataan waxay dhahaan beri saaca camal intaa iskugu imaan lacag idinkoo iyo wadibeen iska baxaa tiriishada midaas aad uga xanuunsanaysa buwaagteeda aruursanaysa waxayna dhahaysaa waaba ka shakiya maalmahan dhan iska indhatiraysa silama filaane waxay ugula hadashay waa ka shakiya ay soo dabagalanay iyadoo sii socod waxay arkaysaa atooreheena arkaayo uu dambe waa u imaanaa way oonaysaa laakiin hawuu siinaa markuu habsiiyo wuu soo wadaa meel kafteeriyo keena wuxuuna usoo gadaa biyo wuxuuna ka wareysanaa waxyaabihii dhacay wuxuuna xagga ka ogaanay inay tiriishada ay soo weerareen kuwa gaangistara oo iskuulka oo hay ugu ah laakiinse wuxuu dhaha u sheeg wuxuu kugu dhacay maanta guriga dadka jooga ka qarinayay dhehaysaa wuxuuna kusoo qaadaya baaskiil wuxuuna keenayaa gurigeeda habeenkii markii la gaaro wuxuuna dhahayaa lacagtii wuxuuna siinayaa lacagtii maanta ay ka qaateen kuwii gaangistarka ahaayeen iyaduna way ka qaadanaysaa wayna ku farxaysaa waxayna sii eegaysaa tooraha isagoo sii socda guriga soo galaysaa waxayna bilaabaysaa inay soo xasuusato waxyaabihii uu sameeyey ee quruxda badnaa iyo xasuusaheedii maadaama tooraha kastoo yar ee fiilan u qaaday maalinkii xigay waxay arkaysaa walaalkeed iyo saaxiibadiisa iskuulka agtiisa ku sugaan waxayna dhahayaan soo bax meeshii shalay kugu baliyamay aadina iyaduna waxay dhahaysaa iska daaya ma rabnay laakiin way ka diidayaan wayna wadayaan waxaa ogaaneynaa wixii dhici doona insha allah kusoo dhawaad qaybtii labaad waxay noo joogtay ee tiriishada walaalkeed oo soo aaday shalay meeshii ay walaalihiis ku balamiyeen gabdhihii buuna uu imaanaa markuu imaado wuxuuna dhahaa waa u samaysan shalay walaashiina maxaa lacagta ugu qaadateen aana ugu hanjabteen laakiin tiriishada waxay weydiinaysaa wiilka lagu dhaaf waxay dhahaysaa maxma ku samayn doonaa laakiin wuxuu dhaha may wiilatay ahaan lahayn wuu ku samayn lahayn laakiin hadda gabdhaha wax ma ku samaynayaa tooraan wuxuu dhaha waa saaxiibtay shalay saas ugu soo gasheen nabadda ayaa fiican gabdha yaraatiin waxbarashada diiradda saara waxaa sameynaysiin joojiya sigaarna caawin ayuu dhahaa waana loo caaga jugleynaya gabdhihii wayna cabsanayaan dhanka kale waxaa arkaynaa iyagoo soo laabanayaan tiriishadana waxay weydiinaysaa waxay soo sameeyeen laakiin walaalkeedu wuxuu ugula kaftamayaa waxyar kabacdi waxay dhahayaan soo baxa guriga aada boorsadeedna dib ay ugu soo celinaya iyadana waxay lacagtii ay u celinaysaa shalay uu u siinaya toora markii ay gabdhaha lacagta kasoo qaada waxayna dhahaysaa ninac ku gada laakiin wuxuu dhaha waa mahadsan tahay iska qaada laakiin waxay dhahaysaa u qaada lacagtii shalay siisay awgeed isna ugu mahad celinaya waxaa arkaynaa guriga iyadoo kusoo laabatay oona sii seexanayso subaxii dambe iskuulka ay imaanaysaa saaxiibteedna waa la burinaya maadaama shalay ay wada gabadhani ay meeshaas geysay
saaxiibteena aad ay ugu raaligelinaysaa in waxaa la bax kalaaska baxweyne oynaysaa waxay samaysay ayaan aad ugu xumaanaysaa tiriishadana sidoo kale ayaan kuma farxayso wixii dhacay waxayna fiirinaysaa warqad ay saaxiibtada soo qortay oo raaligelinta dhanka kale waxaa arkaynaa iyadoo imtixaan la galaya tiriishada waxaa laga qaadaya imtixaan disan dugsiyeedka aan u dhammaanay waalidiinteedu u soo laabanayo waxaana la soo ogaan natiijada ay keentay imtixaanka inay maadada fiiskiska ay dhacday waxaana lagu dhahaa maxaa jeceshay inaad mustaqbalka noqotid iyadana waxay dhehaysaa waxaa jeclay inay artista noqdo intaas besa waxaana lahaa fiiskiskan inaad noloshaada ku dartid waxaana lahaa macalin cusub ku raadina waxay ogaanaysaa in walaalkeed macalin looga dhigay inuu istagaalayaan weyn diidaysaa kan wax ma i baraya ay dhehaysaa qolka inay ka baxday rabto laakiin walaalkeed uu diida wayna ka xanaaqaysaa waxayna bilaabaa inay waalidiintood u tagaan habeenkii ayna dhahaan kan wax ma i baraya sin wuxuu dhahaa macalin cusub baa loo raadiyay waxay dhahay dhimal macalin cusub baa loo raadinaa sidaas ayaana lagu heshiinayaa habeenkii waxaa loo sheegaya tiriishada hooyad waxay dhehaysaa waxaa lagu helay macalin cusub iyo waxay dhehaysaa saa ma filayn in macalin cusub loo hela maadaama sanad cusub uu soo dhaweeyay wayna ka xumaanaysaa waxayna dhehaysaa waa inaad dharkii qaataa beri subax aad dhuntaa waxaa la gaarayaa subaxii iyadoo rabta inay dhuumato hurdada ayaa kastoo la tagaysa wayna soo kacaysaa ugu dambeyn waxay bilaabaysaa inay isdiyaariso ayna dhuumato si qarsoodi inay guriga u baxda laakiinse waxay arkaysaa qof jikada ku jira oo wax karinaya waxay dhehaysaa macalinkii uu soo daahasaan leewaa wax barashadan bes waa macalinkaa ma rabno maadaama uu soo daha maalinka laakiin waxay ogaanaysaa inuu yahay atooraheena walaalkeed ayay u malaynaysa laakiin walaalkeed ayuu imaanaya markaas qurac ayuu atooraha u diyaarinaya wuxuu dhahaa kaala cun subaxda nuurdada waa ku daada iyadana waxay dhehaysaa macalinkii cusub adamiyaa asnaha ayuu dhahaa waa ay wada quraacanayaan markii ay wada quraacdaan waxay bilaabaysaa inay qolkeed kusoo laabato ee buugaagteeda diyaarsato waxayna soo aadaysaa si uu wax u baro atooraha agtood ayay fadhiisanaysaa isagana wuxuu dhahaa waxyarkoo sii fiiri aqoonsigeyga waxyaabahayga anaa ku diyaarina anaa kula akhrinaye andana waxay bilaabaysaa inay sawir ka qaado laakiin wuu ku arkaya isina laakiin waxay iska dhigaysaa waxay sawir ka qaadayna camal moobaylkeed gadaal ayay fiirinaysaa walaalkeed wuxuu dhahaa macnaha isima sawirka qaad in waxay dhahaysaa haa walaalkey waa inaan saxaabteeda u faanaaro maadaama uu qurux loo yahay walaalkeyna uu sheekay lambarkiisa ayay aqoonsigiisa ka qoranaysaa wuxuu bilaabayaa waxbarashada siduu ugu wada maalinba maalinka ku xigto wuxuu bilaabaa inuu ka qaado imtixaan intii lagu guda jiro fasaxeeda subaxii dambe waxay bilaabaysaa inay buugaagteeda wixii ay diyaarsatay ayna isku diyaarisa casharkii macalinkeedna uu imaanayo oo atooreen wuxuuna bilaabaya inuu wax fahansiiyo oona u sharxo kiin habeenkaas wuxuu lahaa shifti kale oo shaqo oo dheeraad ah wuxuuna dhaha waxay rindhaa gaduudsan aadin kasii shaqee homo ee kala suugaan isna iyadan hay ay dhehaysaa casharkii ayuuna ka fafiirinaya wayna sixaysaa wuxuu soo aadayaa maalinka kale wuxuu usoo wadayaa meel madxaf ah si ee interesti ugu yeelato fiisikiska wuxuuna bilaabayaa inuu sharxo walaalkeen wuxuu dhaha in yiraaca idinka leh waaye wuxuuna bilaabaya inuu u sharxo taariikhda iyo fiisikiska waxyaabaha ku saabsan waxayna bilaabaysaa balkaas inay cabaarka ku baashaasho wuuna soo waday haddana wuxuu keenayaa meel kale wuxuuna bilaabayaa inuu u sharxo tiknoolajiyada dareemaha dheriga marka uu dareemo gacmahaaga heerkulkood kulku wuxuu bilaabayaa inuu isbedelo wuxuuna isku bedelayaa awood ayaa waxa ay isu bedelaysaa admission sidaas ayaan u shaqaysaa tiknoolajiyada dareemaha wuxuuna dhahayaa iga ballanqaad aan iskula wada shaqeyno si qurux badan wayna aqbalaysaa laakiin waxay dhahaysaa samaysan xiriir maxaa yeelay saacad itemi ahaanaysa isna wuxuu dhahayaa waxaa samaysanaya gabar fiican sidayda camal ayayna ku noqonaysaa laba qof oo wanaagsan helaysaa waxay soo aadayaan banaanka walaalkeed ayayna u imaanaysaa wuxuuna leeyahay guri u wad waxaa soo wacaa projectiga iyo soo diyaarisna wuxuu dhahayaa haye tiriishadeen waxaa ogaanaynaa inay madxafka u soo tagtay buuggeeda artiska waxayna dhahaysaa walaalkeed ma aragtay wuxuuna dhahayaa may laakiin waxay ogaanaysaa madxafka inuu yaalo waxay wixaysaa qolada madxafka waxayna weydiinaysaa buugga astaamiisa ayaynu sheegaysa waxaa la wiilka kuu soo dhimi subaxii dambe waxaa loo keenayaa buuggeed waxaana u keenaya walaalkeed wuxuuna soo aadayaa meesha hostelka wuxuuna sheegayaa toora in ay bilowday shukaansi online ee tiriishadeen markaas kabacdi isaga wuxuu dhahaa anaa u tagay cunugtaa ku qaylin subaxii dambe aad ay u murusneyd waxayna lahayd si wejigiisa u hortagaya maadaama waxaas sameeyey laakiin wuu imaanaya qalbiga ayuu dejinaya wuxuuna dhahaa waalidiintaad hanii jibinin ugu horeen college-ka dhamey kabacdi waxaa rabtay samee markaad tagtay jaamacadda iyadan waxay dhahaysaa haye jooji ayuuna dhahayaa wayna ka ogolaanaysaa midaas
waxayna bilaabaysaa inay casharada dib u bilaabato waxay sidoo u barato wuxuuna bilaabaa inuu maalinta xigta uu baro si fiican uuna u diro exercise si sax ah ugu soo shaqeyso maalinka ku xigtay physics waxay u fahmaysaa si fiican ugu dambeyn imtixaan ayuuna ka qaadaya waxayna keenaysaa 97 wuxuuna leeyahay kabacdi waa isku filantaa waxay ku dhawaan isoo waxna isoo weydiiyay waa kuu sheegaya sin waxa bilaabanaysa in loo dabaaldego sanadka cusub habeenkeeda soo dhaw waxayna tirishada hooyada dhehaysaa xawana la dabaaldegsiin wuxuu dhahay dhib ma lahan hostelka ayaa xaflad loo qabanaya waxaana la sameynaya hadiyadaha baqshada gaduudan sin wuxuu dhahay meesha ku dabaaldega waxay bilaabaysaa inay u sameyso hadiyada baqshada gaduudan waxayna ugu qoraysaa sanad cusub waxayna bilaabaysaa inay tartiib ugu qariso jaakadkiisa u geliso habeenkii markii la gaaray tirishada iyo familkeeda waxay ku dabaaldegayaan si wadajir ah sanadka cusub waxayna la gadoonsiinayaa hadiyadaha baqshada gaduudan waalidiinteed gadoonsiinayaan waxaana la siinayaa moobilkeeda waxaana la sameeyay waxaa markale sameysay dhehaysaa laakiin waalidiinteed baqshada soo dhexsoo wada fiirina waxayna dhehaysaa waxaa soo diray daandasho mise tooreen waxayna bilaabaysaa inay ugu hambaliyo sanadka cusub asagoo game ciyaaray wuxuuna bilaabay inuu sidan filan waxaa soo wacay lambar uusan aqoonin wuuna ka qabanaya waxaana lagu dhahay aabbaha sanbabada ayuu ka xanuunsan yahay isbitaalka ayuuna yaalaa sida uu dhaqsiyaa badan soo laabaa lagu dhahay wuxuuna bilaabay inuu isku diyaariyo safar wuxuuna soo aaday magaaladii uu ku noolaa maadaama uusan ahayn magaalada saxda oo uu ku noolaa waxaana loo keenayaa tirisho suuxii dambe hadiyad waxaana u keenayaa toora maadaama imtixaankii uu ka qaaday 97 ee keentay waxayna bilaabaysaa inay u mahadceliso waxayna weydiinaysaa inuu dib u soo laabanayo asna wuxuu leeyahay jibinteedu waa soo laabanaa sheekaysi iyo kaftan dheer kabacdi waxay isku salaamaynaa tooraan waxaa albaabkiisu soo gargaraacay iska waxayna dhehaysaa caqabadaha marayso waa ogyahay lacagtan qaado ee ku xalin dhibaatooyinkaasna wuxuu dhahay aada u mahadsan tahay wayna ka tagaysaa waxaa arkaynaa maalinkii qalin jibinta ayaa la gaaray waxaana imaanayaa tirishadii walaalkeedii aabeed waxaana la wadagalayaa sawiro xasuus ah waxaana ka qaadayaa toora tirishada aabeed waxayna bilaabaysaa inay siiso waxa ay u keentay wayna isla sheekaysanayaan wuxuuna bilaabaa professorka jaamacadda isla dhiganayeen inuu dhaho as arki doonaa insha allah saxaabtiisna waxay dhahaan in magaaladii ay u laabanooya waxayna bilaabaa tirishada toorahan inay sheekaystaan ee sawiro isla galaan xasuus ah habeenkii waxay soo wada aarayaan kalaab maadaama ay isku jaamacaddii ay dhameeyeen ayna dabaaldegayaan waxaa la keenay tirishada walaalkeed asoo aad u saqaraansan waxaana keenayaa tooraheena waxaana soo kacay waalidiintiis waxayna dhahaan waa ku mahadsantahay maadaama wiilkan guriga keentay tirishadana way soo degaysaa laakiin hooyada waxay dhahaysaa xaawanta iska seexasna wuxuu dhahay dhib malaha utaala xaawo iska seexanaya sin waxay dhahaysaa ma jirto waxaas korkor allah markii dambe tirishada soo wadayso waxayna seexinaysaa qolka walaalkeed subaxii xigay waa maalinka uu ku qornaa safarka uuna u laabanayay magaaladiisii hore uuna shaqada ka helay wuxuu arkayay hadiyadii baqshada gaduuneed oo tirishada u gelisay habeenka sanadka cusub uuna aqrinaya runtii aad u murugeysnaa wuxuuna bilaabayaa safarkiisa isla arkayna xarqada 3 insha allah kusoo dhawaada taxanaheena qaybtii 3 waxaan arkaynaa tirishadeena oo joogta elboorka kana soo dhuumatay waalidiinteeda una soo dhuumatay wiilkii ay online iska shukaansan jireen laakiin isagoo ku daaday wuxuuna dhahay aad ayaa u yartahay tooraha ayaa magaalada joogay sidaas awgeed wuxuu ugu imaanayaa madaarka iyadan aaday ugu murugoonaysaa maxaa yeelay balantuu ka qaaday ayuu u oofi waayay waxayna leedahay ayaa waay gabartan maxaa waay balanta iga qaaday maxaa u oofin weysaa iyo beri weysa ugu horeen aad ayayna u oonaysaa wuxuuna dhahay ordujiga iska soo dhaqiyan waxay sii milicsanaysaa toorahay gabartiis la taagnaayeen kabacdi u soo laabanaysaa wuxuuna dhahay tikid ayaa ku jira saacadaha soo aadam ayna soo wada qadaynaa waxayna siinaysaa hadiyad uu asaga jeclaa wuuna ka qaadana wuuna ugu mahadcelinaa waxaa soo wacaya lambar intan waxay bilaabaysaa inay baalkii lacagtiisa u geliso lacag wayna u dhigaysaa ama waxaa la gaaraya waqtigii ay bixi lahayd wuxuuna dhahayaa waalidiintaada warkood maqalka dambe waxyaabahaas camalaha sameyn waxayna bilaabaysaa inay u celiso boombalii filimka bilaagiisa uu siinayay wuxuuna dhahayaa maxaa igu soo celisay waxayna dhahaysaa hadiyad ahaan u qaado waxaana la gaaraya waqti diyaaradeeda waxayna ka fikiraysaa xasuusihii quruxda badnaa iyadii tooraha soo dhexmaray waxayna soo aadaysaa madaarka andana waxaa banaanka madaarkiis ku soo yaaya
walaalkeed wuxuuna dhahayaa ma iminku xanaananayay waxaa samaysay, laakiin waxay bilaabaysaa inay oyso, laakiin wuxuu qalbiga ayuu dejinayaa wuuna soo wadayaa guriga. laakiin si cod hoosa waxay ka leedahay aniga uma bixin wiil online ah, waxaan ogaaneynaa in Atoora dartiisa u baxsay u soo weydiisay waxyaabo ballantu ka qaaday inuu oofin doono. Andana waxay soo aadaysaa qolkeeda, waxayna bilaabaysaa xasuusiya Atoora uu siinaya Bombal iyo waxyaabihii dhan inay isku aruuriso in diyaariso si ay u xareyso. hooyadeed iyo waalidiinteed waxay dhahayaan waxayna ku gaarayaan tirishada waalidiinteed inay wax dhicin ka soo qaadin, in uu dhaqmaan sidii caadiga ahayd oo markii iskuulka imaatay u dhaqmi jireen. andana laakiin mobilka ay ka qaadaan, saas ayayna go'aan ku gaarayaan. waxaan arkaynaa tirishadeen waxay bilaabaysaa inay aad u murugoto, bokisna ay soo qaadato si ay u geliso xasuusiyada uu Atooraheena siiyey. waxayna soo xasuusanaysaa wax walba, shay walba uu siiyey iyo xusuustii ku duugneyd, si ayna u bilaabato nolol cusub. waxayna bilaabaysaa iyadoo ka xun oo weliba aad ugu xun inay ku aruuriso bokiska waxyaabihii dhan oo uu siiyey Atooraheena. Tawansho Bombalii u dambeeyay ay ku xareysay, waxayna go'aan ku gaartay inay nolol cusub bilaabato. waxaa arkaynaa 2 sano ka bacdi Sanjay waxay gashay jaamacaddii ay jecleyd hiriyadeeda ahayd oo Atoora magaalada uu kasoo jeeday ah. waxayna meeshii dib ugu kulmeen saaxiibteedii iskuulka isla dhigan jireen oo laga burinayay, waxayna isla degeen hal qol. waxaa kaloo arkaynaa gabadh cusub kale oo Atirisha saaxiibteeda Yoo Joohin ayaa la dhahay. waxaa kaloo arkaynaa gabadh cusub waxaa ku dul dhacaya wiil, waxaana ka daadanaya buugaagtii ay wadatay, waxaana caawinayo wiilkaaniitii. kabacdi wuxuu dhahayaa intay u socotaa, waxayna u sheegaysaa meesha u socota uu soo wadaya. waxaa arkaynaa dhanka kale Atirishadeen saaxiibteed iyada iyo vlog duubanayaan. waxaa arkaynaa wiilka inuu imaanay asxaabteed uuna isbaraya, wuxuuna u sheegay inuu magaciisa loo Janmin uuna qaabilsan yahay iskuulkan ee jaamacadan ee dhanka sportiska. waxayna ku casuumaysaa xafladeeda dhalashada. waxaa la gaaraya habeenkii xafladda dhalashada, wuxuuna ku casuumaya asxaabtiisa oo kala dhan ayuuna keenaya xafladda. waxaana bilaabanaysa inay soo aadaan hoolka. waxaa kaloo arkaynaa Atooreen dhanka kale asagoo kasoo socda, laakiin Atirishadii isaga isma arkayaan. isagana wuxuu hoolkan ku lahaa habeen baashaala asxaabtiisa ee isku shaqo wadaaga yihiin, waxaana la barayaa gabadhan cusub. waxayna wada cabayaan waxyaabo cabitaankooda, waxaana bilaabanaysa Tirishadii asxaab ay heesaan waqtigoodna ay ku raaxaystaan. waxaa arkaynaa Tirishadii inay banaanka u soo aaday, laakiin lama filaana waxay arkaysaa Atooraheena, wuxuuna dhahayaa sigaar cawow ayaa bilowday. iyadana waxay dhahaysaa asxaabteeda ayaa iskale jaakadeeda ayayna geliyeen. isna wuxuu dhahayaa aad ayaa isku bedeshay, mida kale maxaad ii soo wiciweysay. iyadana waxay dhahaysaa waa laabanaya hoolka ku laabanaya. waxaa bilaabanaysa keeg jarista Tirishada, laakiin waxaa soo wicaysa hooyadeed, waxayna dhahaysaa waa inaa guriga aada. iyadana saaxiibadeen hayay dhahaan keeg hore igu soo qaada ayay dhahaysaa. andana way soo baxaysaa banaanka. markay soo aaday iyada waxay soo xasuusanaya Atooreen, waxayna dhahaysaa duq waaxid. isna wuxuu dhahaa in ma iga hadloosaa. iyadana waxay dhahaysaa may waxuu iska dhahayo oo keliya. wuxuuna dhahayaa maxaa asxaabta u israacayna dhahaysay aawo. kabacdi iyadana ana keligaa socday ay dhahaysaa. isna wuxuu soo qaadayaa baabuurkiis, wuxuuna u soo wadayaa kambaska ee iyada hadda wax ku barato. qowb ayay dareemaysaa, wuxuuna u daarayaa kuleeleysada. kabacdi waxaa la gaarayaa kambaska, wuxuuna u sheegay habeenkii inay kaligeed banaanka ay soo bixin. wuxuuna siinayaa malab si ay madax xanuunka ahaaya awgiis ugu cabto. way soo bixisaa, guriga ayay imaanaysaa, waxayna bilaabaysaa inay malabka qasato, waxayna bilaabaysaa inay cabto. wuxuu u soo qorayaa qoraal ah inaysan kaligeed banaanka habeenkii soo bixin. wuxuu kaloona u sheegayaa inuu ku faraxsan yahay magaaladan uu aad ugu cidlooday inay imaato. markuu ogaadana uu aad ugu farxay, laakiin waxay isweydiinaysaa maxaa magaaladan dad ugu nool gabadhii maalinkii aaway. kabacdi waxaa ogaanayna asxaabteeda iyadoo la hadlaysa ay arkaan, markaas waxay weydiinayaan sheekada jaceylka. andana waxay dhahaysaa isaga intay time ii soo wicin saaxiibtii darteeda ii soo wacay iyadoo isjeclaayeen. waxayna ka dhigaysaa qisadeeda jaceylka inay ku dhacday saaxiibteeda. waxaan arkaynaa habeenkii malabku markuu soo gadaayay. kabacdi subaxii dambe waxaa arkaynaa saaxiibadeedii mid ka mid ah inay baxday. andana Tirishada waxaa soo wacaya walaalkeed, wuxuuna ku dhahayaa waa inaas Tawansho u raacdaa casho. andana waxaa arkaynaa shir Atooreen ku jiro iyo geemka soo saari rabaan.
waxaana la qof haya ma jira fikir cusub waxaan leeyahay tooreen ana haya ka bacdi wuxuu sheegay in gamekooda cusub uu ka dhigaan mid lagu isticmaali karo computer iyo mobile ba shirkadda meesha ayuu kusoo gabagaboobay waxaa arkaynaa tiriishadeena waxaan u soo qoraysaa tooreena habeen hore guriga ii keentay waxaa kugu casuumaya casho waqtiga firaaqada leedahay waa inay soo sheegtaa andana isna wuxuu u qorayaa diyaar waaye laakiin wuu soo wacay wuxuuna leeyahay macnaha maxaa sida akhlaaqda leh ayuu la hadloosid iyadana waxay dhahaysaa aabahey wuxuu idhay dadka 5 sano iyo wax ka kaaween waa inaa ixtiraamtaa adna waxaa soo xasuusta inaa 5 sano iga weyn tahay asna wuxuu dhahay laakiin iyada waxay dhahaysaa waxaa rabaa inaan kuu sheego in muddadii 2 sano aan iska mashquulinayay mobilka kambaska waa laga haystay kambaska ku noolee mobilka mal ogola andana saas ayuu dhaawaa ogaa nankal waxaa arkayna subaxii dambe waxaa arkayna tiriishada saaxiibtay inay wiil jecel ay samaystay in tusta saaxiibadood wiilkan kalena oo ahaa madaxa sportska tiriishada wuxuuna dhahayaa wuxuu casuumay isbuuca dhammaadkiisa shaneemo andana iyadana way ka ogolaanaysaa sidoo kale toora waxaa loo soo dirayaa boxing waxaan u soo diraysa gabadhii filimka bilowgiisa qaybaha kala fiirsateen oo habeenkii ugu lacagta ay siinaysa uu ka diidaya andana wuxuu u qorayaa subaxii dambe xisaabteen xirkeena maroor ayaa xilnay marka kale ha ila soo hadlin iyadana waxay dhahaysaa maxaa ula jeedaa mar kale ha ila soo hadlin waxayna dhahaysaa waxaan jeclaan lahaa inaan soo casheeno andana mobilka way soo wacaysaa mana ka qabanaya waxaa ogaanayna in ekstiistay saasna uu iskaga indhitiraa waxaa u imaanaya saaxiibkiis shaqada wuxuuna dhahayaa maxaa wax cuntiisna wuxuu dhahayaa hadda cunaa isna wuxuu dhahaa howlka qolka shirka kuu sii qaadaas meesha ayaa ku cunaysa isna ayuu dhahayaa waxaa la gaaraya howlkii meesha shirka loo qabanaya waxaana bilaabanaysa in gamekii cusub lasoo saari rabay in laisku raaco intana soo saar intuusan sanadka dhammaanin waxaa bilaabanaysa tooreen inuu cuntadiisa wuxuu bilaabanaysa xanuun maadaama cuntada wax ku noqday waxaa la gaarayaa habeenkii waxaan arkaynaa in tiriishada asaga isbalansanaayeen isbuuca dhammaadkiisa habeenkii cashada isku raaci lahayn laakiin iyada codkaysa waxay ka dareemaysaa inuu xanuunsan yahay waxayna weydiinaysaa meesha xanuunayso inuu usoo diro locationka wuxuuna usoo diray locationkiisa andana waxay imaanaysaa meesha shaqadiisa waxayna arkaysaa tooraa waxayna usoo wadaysaa banaanka waxayna raadinayaan taxi intay taxi raadintiis ku jiraan waxay isku dullacayaan shil ayaa meesha ka dhacay waxaana u imaanaya taxigooda wayna raacayaan waxaana loo wadayaa isbitaalka insha allah barti 4 la socda haddii aadan daawana qaybaha ka horeyna soo daa toora usoo wadaysa isbitaalka si uu ogaado caafimaadkiisa doctorkan wuxuu ku dhahayaa wax fiican ayaa samaysay wax fiican ayaa keentay waa in lagu sameeyaa qaliin wuxuu qabaa qabsin ama dheebshiidka ayuu ka xanuunsan yahay tooreen waxaa loo soo wadayaa qolka qaliinka isagana tiriishada wuxuu ku dhahayaa kambas ku laabsan ka bacdi andana iyada waxay dhahaysaa banaanka ayuu ku sugay walba casho cuna ayuu dhahayaa andana waxay fariisanaysaa meesha weytinka oo lagu suga qofka andana waxay bilaabaysaa inay cudurkii waxyaabihiisa akhriso waxaana soo wacay hooyadeed waxayna u sheegaysaa duwaan inuu xanuunsan yahay iyadana waxay dhahaysaa maskiin qof ma haysto sanjiina waxay dhahaysaa hooy maxaa ula jeedaa qof ma haysto magaaladiis ma iyadana waxay dhahaysaa haa waxaan galaynaa xasuus waxaan arkaynaa tooreena isagoo u soo celinaya tiriishada hooyadeeda waalidiinteed lacag uu ka qaatay andana waxay dhahayaan lacagta iska qaad uu diiday nala casheeya allah may dhib malahan ayuu dhahay wuuna ugu mahadcelinaya wuuna ka tagayaa waxayna dhahayaan wiilkan ka taxadar waa wiil dhibaatooyin badan ayuu maray isagana haye ayuu dhahaa waxaana kasoo laabanaynaa xusuusta waxaan arkaynaa qaliinka in lasoo begay waxaana lagu dhahaa wax adag macun kar wax dareer oo keliya ayuu cabayaa xaaladiis kale anaga kula soo socodsiinayno duwaan wuxuu dhahayaa waa inaa kambaska u laabataa waana iisoo sheegtaa markaa kambaska aad tagtayna waxay dhahaysaa qof weyn ayaa noqday markaan isna wuxuu ka fikirayaa shilkii ka dhex dhacay iyadii asaga waxaana soo wacay saamiyaan wuxuuna caafimaadkiisa ayuuna weydiinaya wuxuuna rajeynaya caafimaad tamaamay waxaana soo laabanaysa tiriisheen wuxuu dhahayaa maxaa kusoo celiyay waxay dhahaysaa ani hadday dhibaatada igu dhici lahayd waa ila joogi lahayd casha ayaa soo gatay ayaa jooga caawa seexanaya dhahaysa doctorka wuxuu dhahayaa ma qabaysan kartid waxayna bilaabaysaa inay wejiga ka tirtirto silma filayn dhuu kala furaa bay soo xararaysaa suuliga maas muxuu iigu sheegay markuu indhaha kala furaayay ka bacdi habeen ayaa la gaaraya saaxiibadeed ay u sheegaysaa inaysan soo hooyanaynin
waxayna u sheegaysaa inay college-ka aadayso. Isna wuxuu dhahayaa guriga aad ii soo qaad kombiyuutarkiisa. Iyadana waxay dhahaysaa maya waa xanuunsantahay, college-ka ayay imaanaysaa. Waxayna bilaabaysaa cashadeeda inay qaadato. Asxaabteena waxay weydiinayaan wiilka ay wax isku yihiin soo caafimaadkiisa. Waxayna u sheegaysaa inay fiican tahay laakiin bacdul iskuul inay aadi doonto. Waxay is arkayaan Janmin wayna ka raaligelinaysaa maadaama xalay meesha isku raaci rabeen ay ka baaqatay. Ninka kale Atooraha ayaa wuxuu soo wacay gabdha ay shaqo wadaagayeen, wuxuuna u sheegay in kombiyuutarkiisa uu keenayeen. Waxay dhahaan soo caafimaad ka bacdi ayaa shaqaynaysaa. Waxaa soo wacay gabadhii Atooraha jecleed. Dhanka kale waxaa arkaynaa tiriishada Sanjay oo imaatay guriga Atooraha, waxayna u soo qaadaysaa waxyaabo uu u baahnaa. Waxay arkaysaa sawirkeeda maalinkii xafladiisa ee qalinjebinta. Waxayna arkaysaa dhanka kale hooyadiisa, wayna salaamaysaa. Waxayna soo aadaysaa dhanka iyo qolkiisa, waxayna u soo qaadaysaa dhar iyo kombiyuutarkiisa. Iyadoo guriga kasoo baxaysa waxaa arkaynaa gabadhii u imaatay Atooraha laakiinse ma uusan joogin. Albaabka ayuu ka garaacaysaa. Waxaa arkaynaa dhanka kale isbitaalka tiriishada inay imaatay. Qolkan wuxuu kusoo biiray bukaan cusub, wuxuuna ku dhahayaa tiriishada waa inaad dalbataa cunto. Atooraha ka bacdiyan waxay dhahaysaa anaa dalbanayo. Duqana wuxuu dhahayaa gabadhaada xaaskaaga ku qaylinin. Iyadana waxay dhahaysaa kan aabba ayuu ku fiican yahay ninkii ma wuu iga weyn yahay. Ka bacdi wuxuu dhahaa dhib ma laha, cunug ayaa u dhalaysaa. Ka bacdi aabba ayuu naqanayaa. Habeenkii waxaa arkaynaa wuxuu ku dhafrayaa project uu diyaarinayay. Tiriishadana waxay dhahaysaa inaa kuu keenaba ma ahaynin, san ayaa tahay ma dhafarka waa inaa iska joojisaa. Duqana wuxuu dhahaa waa inaa isguursataa markaa meeshaan ka tagtay. Iyadana waxay dhahaysaa waa isguursanaynaa. waxayna kasoo baxayaan isbitaalkii isbuuc ka bacdi. Waxaan arkaynaa iyaga u socda guriga. Atoorahana wuxuu dareemayaa inay ka xanaaqsan tahay, wuxuuna la hadlayaa laakiin uma jawaabayso. Guriga ayay imaanayaan. Waxayna bilaabaysaa inay dhahdo dadii labada san jaceylka aqarsanayay waxay la muuqataa inuusan igala mid ahaynin. Waxayna bilaabaysaa inay waxyaabahaas ka fikirto. Waxay u sheegaysaa inuu dhafarta iska yareeyo, habeenkii inuu waqti fiican seexdo, cuntadiisana uu ilaaliyo. Waxayna dhahaysaa homework ayaa u baahan inaad ka shaqayso. Asxaabtii ayaa aadaya. Waxayna soo baxaysaa guriga. Waxayna bilaabaysaa inay dhahdo had ka bacdi waa walaalkee. Habeenkii markii uu la gaaray wuxuu arkay warqadii meesha ugu dhejisay, wuuna fiirinaa. Subaxii dambe wuxuu soo aadaya shaqadiisa, wuxuuna xal weydiisanayaa asxaabtiisa si ay tiriishada ka xanaaqsan ay xal ugu keenaan. Ka bacdi waxay dhahaysaa waa inay habeen casho u wadaa. Wuxuuna dhahayaa haye. Waxaana ku laabanaya shaqadooda. waxaana soo wacay gabadhii jecleed wuuna ka qabanaya. Wuxuuna dhahay waa inaa faraha iga qaaday. Iyadana waxay bilaabaysaa casho isla soo cunno. Ka bacdi mobaylka ayuu ku daminayaa, way ugu soo celinaysaa, wuuna iska indhatiraa. Habeenkii waxaa la gaarayaa habeenkii isku raaci lahayn shaniimada tiriishada iyo Janmin. wuxuuna dhahayaa waa inaa wax yar hawo soo qabtaa. waxayna arkaysaa meel boombalo ku jiro. waxayna isku dayaysaa inay soo baxsato. dhankooda ayay soo aadaysaa. waxayna isku dayaysaa mid uu mar Atooraha siiyo inay soo baxsato, laakiin way soo baxsanaysaa. Janmin wuu arkay iyadoo ku dadaalaysa, mid ayuu soo bixinaa laakiin wuxuu arkay iyadoo soo baxsatay. dhan kale wuxuu keenayaa kambaskeeda. waxayna soo raacayaan asxaabteeda. waxayna isku balansanayaan inay habeenkii sanadka cusub ee banaanka aadaan. waxaana la gaaray habeenkii sanadka cusub. tiriishada waxay dhahaysaa meel buuq ah. waxayna bilaabaan inay tiriishada maxsalaameeyaan, ayna baxaan banaanka aadaan asxaabta kale iyo iyaga. Janmin wuxuu weydiinayaa Sanjay ma imaanayso miya. iyagana waxay dhahayaan maya. wuxuuna bilaabaa inuu niyajo. waxaana halkaas ku ogaanay inuu jecel yahay Sanjay. dhan kale waxaa soo wacay tiriishada Sanjay Atooraha. wuxuuna dhahayaa banaanka ayaa casho isku raacayna. wuxuuna usoo wadayaa casho si uu ugu mahadceliyo. waxaan arkay in maqaaxida ay imaatay gabadhii Atooraha jecleed. waxay arkaysaa, waxayna ku shubaysaa Atooraha biyo. tiriishadana waxay u kacaysaa, iyadana waxay ku shubaysaa sidoo kale biyo. waxayna dhahaysaa wax aad ku samayn kartid ma lahan. waana maqaaxida banaanka ayaa looga saarayaa. waxayna bilaabayaan inay iyagana ay soo baxaan. waxayna bilaabaysaa in biyihii ay ku daadisay ay ka tirtirto. waxayna dhahaysaa hore ayaa u arkay gabartaaneti. waxayna bilaabayaan in sanadka cusub ay iskugu hambalyeeyaan. iyadana waxay ka duceysanaysaa in dhow gabar hel. gabadhaasna ay iyada naqdo. isna wuxuu ugu duceynayaa inay farxad ku noolaato. asxaabta kalena kulligood waxay bilaabayaan inay qof walba wuxuu jecel yahay uu niyeysto. waxaan arkaynaa gabadhan inay Janmin ku daqaran tahay. dhanka kale waxaa arkaynaa Atooraha oo guriga soo socda. waxaa ka hor imaanaysa gabadhii. waxayna dhahaysaa habeenka raaligelinaysaa waxyaabihii ay samaysay. waxayna dhahaysaa hooyadii ballantaa ka qaaday oo fiiyo inaa ilaalin doontii ayaa ballan ka qaaday. isagana wuxuu dhahay wuu iska tuuraa. wuxuuna kusoo xaroonaya gurigiisa. banaanka ayay cabaar ku oynaysaa. wuxuuna bilaabaya inuu waxyaabihii dhacay ka fikiro. wuxuuna galayaa xasuus.
waxaan halkaas ku ogaanaynaa in gabadhan aabaheed uu dilay atooraha aabihiis. Then waxayna bilaabayaan ardayda kalaaska dhigta inay dhahaan atooraha aabihiis waa dilaa, wuxuuna dhahayaa waa ka caawinaa maalmaha iskuulka maqneed. Waxaa arkaynaa hooyadiis inuu ka raaligelinayo midaas. Then wuxuuna mahadcelinayaa tiriishada. Waxaa arkaynaa inay u soo qorayso sanad cusub, wuxuuna dhahay waan ugu hambalyeynaa. Sidoo kale waxaan soo wacay atooreen saaxiibkiis, wuxuuna dhahay aniga waa aroos rabaa midaas ugu. Wuxuuna dhahay gabar ma arkood, isna wuxuu dhahay shub ayuu ka ahaanaya. Wuxuuna dhahay jacayl ayaa ku galay, waxay caddeynaysaa aamusnaantaada midaas. Wuxuuna ka fikirayaa taas. Subaxii xige waxayna atooraha u sheegaysaa inay wax u hayso inay rabto inay u keento. Then waxay dhahaysaa waa baxay busy ayaa ah. Iyaguna waxay dhahayaa maqaaxi ayaa isku raacayna. Dhan kale waxaa arkaynaa atooraha oo shir ku jiro. Then markuu shirka soo baxo waxaa arkaynaa in loo sheegaya inay imaatay gabadhii ekistiisa ahayd oo banaanka waardiyaasha ay celinayaan. Dhan kale wuxuu usoo cararay tiriishada, wuxuuna dhahayaa waxayna siinaysaa bahashi ee u keentay. Wuxuuna dhahayaa ha imaan ilaa aad ii soo sheegtid meeshaan. Wuxuuna ka xirinayaa kaamirada ee u keentay guriga albaabkiisa. Waxayna ku dhahaysaa ka waran bal haddii ogaato gabadha qaraabada tihiin maxay ku samayn kartaa. Arrinkaas ayuu ka fikirayaa atooraha. Kabacdi wuxuuna la soo hadlayaa tiriishada, wuxuuna weydiinayaa goorta imtixaan galooyin. Wuxuuna dhahay imtixaanka markuu ku dhamaado tigidh ayaa ku jira ku aadayso waalidiintaada. Waxaana la gaarayaa maalinkii koowaad ee imtixaanka. Waxayna isku raacayaan imtixaanka markuu dhamaado inay isku raacaan kalaab ayna soo baashaalaan. Waxaana ka xaqnay saaxiibkeedii hortaaniti tiriishada saaxiibteed. Then uu raaligelinayaa, waxayna aadaysaa banaanka si ay ula soo baashaasho. Then waxaa arkaynaa habeenkii ugu dambeysay ee imtixaanka uu dhamaaday. Waxayna kalaab ku sheekaysanaysaa asxaabteeda, waxayna iska badinaysaa cabitaanka tiriishadeena. Waxaana la soo atooreen, wuxuuna dhahay beri safar ayaa tahay waa inaad dharkaaga aad diyaarsataa. Asna wuxuu bilaabayaa Janmi inuu u helo tiriishada. Waxayna kasoo baxaysaa maadaama ay cabto atoorahan wala hadlaa. Wuxuuna ogaanayaa inay kalaab jabtay cabitaan ay cabtay. Asxaabteeda ayay soo macsalaameynaysaa, waxayna dhahaysaa walaalkii ayaa banaanka ii joogo iyo soo socdaan miidna banaanka ayuu u soo raacayaa. Markaas kabacdi wuxuu kusoo wareejinayaa atooraha tiriishada. Kabacdi way ku matagaysaa maadaama ay cabitaanka iska badis. Waxayna dhahaysaa lalaba ayaa ay hayso. Waxayna u sheegaysaa inay wiil jeclaatay. Atoorahan wuxuu weydiinayaa isagana si xun ku laqma. Waxay dhahaysaa maya dadka dhan ayuuna u wanaagsan yahay. Waxaa ogaanaynaa atooraha inuu midaas ku xumaan. Wuxuu dhahay haddii ani ahaan lahaa hal waqti kaama murjiyeen. Hadda nolosheeda okay ayay naqdeen waa iska gool, laakiin carqalada kaliya ay haysto waa in aad hadda kaa weynahay. Waxaan halkaas fahmay in atooreen tiriishadu aad uga helay. Wuxuuna soo hadlayaa, wuxuuna dhahay waa inaad diyaarsataa madaarka kuu geeyo asxaabteeda iyo waxay ugu sheegaysaa wixii xalay ee dhacay. Then way soo diyaarinaysaa, waxayna dhahaysaa banaanka. Atooraha ayaa banaanka u taagnaa, boorsada ayuu ka qaadaa. Janmin ayaa u imaanaya, wuxuuna bilaabay inuu jeelkiisu sheegto, laakiin aad way ka raaligelinaysaa midaas. Wuxuuna ka codsanayaa inay saaxiibo sii ahaadaan, wayna ka aqbalaysaa. Waxayna isku soo raacayaan atooraha tiriishada dhanka iyo madaarka. Wuxuuna weydiinayaa wiilka ay jeclaatay inuu Janmin yahay. Kusoo dhawaad qaybtii 5aad ee taxanaheena. Waxaa arkaynaa tiriishadeena oo imaatay magaaladeeda. Waxaana la soo hadlayaa atooreen, wuxuuna leeyahay magaalada ayaa imaaday, waa is arki doonaa. Dhanka kale waxay asxaabta oo dhan iskugu imaanayaan arooska Qayaanfiin oo atoorahana u soo sheegay bilowgii qaybteenii hore. Waxaa arkaynaa atooreen oo imaaday arooska, wuxuuna u hambalyeynayaa Qayaanfiin. Sidoo kale tiriishada waxay leedahay taagaas oo taagaani siinay maahan. Qayaanfiin iyo tiriishadiisu waxay ugu mahadcelinayaan kasoo qaybgalayaasha xafladooda. Dhanka kale waxaa arkaynaa atooreen wuxuu leeyahay maxaa ii salaami weysay tiriishadeena Sanji. Then waxay go'aansanaysaa inay xafladda iska tagto maadaama waqtigii caweyska la gaaray. Banaanka markii uu soo baxay waxay arkaysaa atooreen. Kabacdi wuxuu dhahay soo bax walaalka ayaa furaha baabuurkiisa kasoo qaatay guriga ayaa ku geynay. Iyaduna waxay dhahaysaa inaan dib unta toos ma u baxaysaa mise wuxuu leeyahay waa usoo laabanaya dib ka soo laaban. Waxay dhahaysaa dib waa iska daa, laakiin wuxuu dhahay habeen waaye waa inaan israacnaa. Wayna ka ogolaanaysaa midaas. Wuxuu weydiinayaa beri diyaaradda waqtiga ku qoranta. Waxay dhahaysaa 2 saac oo ku qornay. Sidoo kale xataa 2 saac waaye oo dhaha. Kabacdi wuxuu istaajinayaa meel lagu gado dukaan fruitis, wuxuuna soo strawberry. Kabacdi wuxuuna leeyahay isku badnaa waxa iga faa'iidaysanine. Waxaana la imaanayaa guriga. Then wuxuuna gadoonsiinayaa hadiyad uu talagalay sanadka cusub. Wuxuuna leeyahay ma furaysid miyaan? Then way furaysaa. Waxayna arkaysaa silsilada ay jecleed, wayna ugu mahadcelinaysaa midaas iyadii. Then way soo baxaysaa. Wuxuu leeyahay beri subax ayuu isdiyaaray.
dan gurigeeda ayay soo aadaysaa, waxayna bilaabaysaa silsilada inay fiiriso, waxayna isweydiinaysaa waxa ay ka turjumayso, waxayna ogaanaysaa jacayl iyo taxaddar inay ka turjumayso. Waxaan imaanaya waalidiinteeda, waxayna leeyihiin boorsooyinkaaga ma diyaarsatay, waxayna waalidiinteed ku dhahaysaa beri iska nasta, waxaa israaci rabnaan iyo duwaanshiyo subaxii asagaa isoo maray rabo. Waxaa ogaanaynaa habeenkaas le inuu tikid ka raadinayo, uusan tikid haysanin, waxaana uu helayaa tikid subaxii ah, wuuna seexanayaa. Subaxii dambe markii la gaaro waxaan arkaynaa aliseydii inuu imaanayo tiriishada, waxayna dhahaysaa maxaa xalay ma seexanin miyaa. Ugu dambeyn waxay imaanayaan madaarka, waxaana meesha ku arkayaan wiil la isla dhigan jireen Tooreyna dugsiga sare, wuxuuna dhahaa Jian Yin miyaa. Andan wuxuu ogaanay inaysan ahayn, wuxuu dhahay garaan qorkaas yaa kuu sheegay oo Tooraan dhahay waxaa la gaaray diyaaradeeda waqtigeeda. Tiriishada waxay weydiinaysaa Jian Yin yeetay, wuxuuna dhahay waa habeenkii gabadhii qaaxida noo carqaladeynaysay, laakiin gabar kale ayaa kugu arkay maalinkii ay imaanayay magaaladan ayay dhahaysaa. Waxaana ay imaanayaan ugu dambeyn kambaskeeda, wayna macsalaameynaysaa. Saaxiibteen waxay weydiinaysaa inuu yahay karaashkeeda, waxayna u sheegaysaa in sanadihii lasoo dhaafay uusan wax jecel ah uusan sameyn inuu u sheegay, laakiin waxay dhahaysaa xogo inuu iga helayo u malaynaya, laakiinse maadaama hore ogaal wax yar caadi hadduu ii sameeyo xataa waxaan u malaynayaa wax kale. Tooraan wuxuu dhahayaa ma jiro saa qiyaasayo qof kale ee sheegaysa aniga ayaa eegays, wuxuuna wacaa qiyaanfiin, wuxuuna u sheegaya gabadhii inay ka heshay, wuxuuna uga hambalyeynaya midaas, wuxuuna leeyahay busy ayaa iga dhamaa. Wuxuu wacayaa tiriishada, wuxuuna weydiinayaa inay firaaqa leedahay, wayna aqbalaysaa. Asxaabteena waxay weydiinayaan waxa jiro, waxaana u sheegaysaa inay karaashkeeda dating u socdaan. Ookiyaalaha wadatan waxaa ugu wacayna miskiin, waxay dhahaysaa Jaamin ma wax idinka dhexeyn iyada ma ina karaash leeyahay xataa wuu ogyahay, ayay dhahaysaa. Dhanka kale waxaa arkaynaa mashruuc ay soo diyaarinayaan in tijaabooyin yar in lagu sameeyo, u baahan yihiin geemkooda si u soo bandhigaan. Wuxuuna u imaanayaa tiriishada kambaskeeda, waxayna asxaabta u sheegayaan inuu imaaday, way u soo baxaysaa. Wuxuuna dhahayaa maanta aad baad u qurux badantay, waxaana kaloo u baahanay inaa qof ku baro, waxaan si hoos iska leedahay qoftiisa miyuu ku baraa. Wuxuu ka ballan qaaday qof hadduu jecel oo yeeshto qofka ugu horeeya uu bari doono inuu iyada noqon doonto. Waxay imaanayaan maqaaxidii, waxay arkaysaa gabadhii maalinkii madaarka, wuxuuna leeyahay qoftan waxaa la lahaa Seoul waan producer-ka Dylan of Joshua, qofta iga sareysa. Iyadana wuxuu bilaabaa inuu ka tago, iyadana waxay bilaabaysaa inay u ammaanto isaga, waxayna dhahaysaa adigu way kaa sheekeyn jiray sanadihii lasoo dhaafay wax shukaansi ama sameynin. Waxaa kaloo imaanaya meesha asxaabta ay isku shaqo wadaag yihiin, wuxuuna u sheegay inay saaxiibtiisa tahay. Iyadana waxay dhahaysaa meeshaan ma ka baxsanaynaa ayuu dhahay, iyadana waxay dhahaysaa ma awoodaan. Andan way isla soo baxayaan, waxayna u sheegaysaa inaysan baahi haynin, wuxuuna dhahay waxaa aadaynaa tiyaatarka. Waxayna imaanayaan tiyaatarka, waxay soo gadanaysaa shaah, laakiin shaah waxaa lagu soo bedelayaa mid caanahan xasaasiyad ay ka qabtay. caanihii markii cabdi wajigaana buu soo baxay, wuxuuna u soo wadayaa isbitaalka, wuxuuna soo qorayaa daawooyin. Waxaa kaloo ogaanaynaa inay ku soo heshiyeen Seoul iyada inuu asaga waxyaabahaas u sheego iyo inay nin qabo. Wuxuuna soo xasuusinayaa markuu caanaha siinayo, wuxuu dhahaa caanaha ku siinaya maalinkaas ay ku samaysay. Iyadana waxay dhahaysaa gabar isku galaasna hayaa cabte, wuxuuna u soo wadayaa dhanka iyo kambaskeeda, waxayna weydiinaysaa in Seoul waxaas oo ka codsada inay loo sheego. Dhanka kale waxaa arkaynaa asxaabteeda, waxayna isweydiinayaan wixii dhici doono, waxayna dhahaysaa lacala haddii aad wiil jeclaatid hore miyaad uga sheegan lahayd. Antan waxay dhahaysaa aniga mooyaa waan la idaba socda, waxaana la weydiinayaa miskiin. Iyadana waxay dhahaysaa anima ogi. Waxayna imaanaysaa ugu dambeyn kambaska, asxaabteena waxay weydiinayaan sida uu ahaa dheedka, waxayna dhahaysaa akhtar ayuu ii ahaa. Maalinkii xig waa maalinkii dhalashadeeda. Jaamina meesha ku arkay, wuxuuna siinayaa gifti. Wuxuu weydiinayaa wiilka ay ka heshay inuu sidiisa camal u qurux badan. Iyadana waxay dhahaysaa waxaas intee ka keentay, wiilkaas hadduu waa iska daayay adna ha igu soo xasuusinin. Waxayna soo raacayaan si ay u soo daawadaan Shaneemada maalinkii lasoo dhaafay, maadaama aysan soo daawanin. Waxayna imaanayaan Shaneemada, waxayna isla daawanayaan filim. Kabacdi markay soo daawadaan waxay dhahaysaa, wuxuu dhahayaa soo bax gurigeyga ayaa aadayna. Iyadana waxay dhahaysaa daraasoo ima dhihin ha imaanin gurigeyga amar la'aan iyo goobteeda shaqadaba. Iyadana wuxuu u sheegaya in maalinkaas Jiyun Min ay joogtay ahayn dhibaato ka samaysay, iyadana kala baqaaya. Waxayna imaanayaan guriga, wuxuu sameynaa laba toorto, mid asagaa sameynaa midna uu soo iibinaya si
sii hadee mid kale cunto wuxuuna ku dhahayaa Jianmin wuxuu rabaa inuu kusoo jiito maxaa looga baahan yahay si uu kusoo jiito iyadana waxay astaamo ee looga baahan yahay u sheegaysaa. dhanka kale kambaskan asxaabteeda waxay u sameynayaan surprise xaflad ah andan waxaan arkaynaa maalinka uu sameynaya dhalashada tiriishadeena keega. dhanka kale waxay furaysaa giftiga uu soo siiyey Atoorehena waxayna arkaysaa sawir asaga ku jiro waxayna waxaan maxaa waaye andan wuxuu isku dayay wuxuuna ogaanayaa in si qalad uu sawirkaas kaga soo qaaday waxayna dhahaysaa waa sii seexanaa waxayna ka bedelaysaa lambarka walaalo uu qornaa sidoo kale walaalkeeda ayaa wuxuu soo diray gifti si uu baashaash maadaama dhalashadeed ay tahay waxayna u sheegaysaa inay jeclaatay sina wuxuu wiil inay jeclaatay jaamacadda dhameeyay sina wuxuu wiil hal maalin igu weyn xataa ma ku ogoli. dhanka kale suuxii markii la gaaro asxaabteedii waxay arkayaan dejinta ugu jirto waxayna dhahaan aad bay u qurux badan tahay. dhanka kale Atooraha wuxuu ka codsanayaa inay isku raacaan casho iyadana waxay leedahay bari fursadnaa marka ugu dambeyn way ka aqbalaysaa. maalinkii ugu horeysay markii ay isku soo raacaan wuxuu sheegay inuu mashquulsan yahay systemku wax ka qaldan yahay meeshii shaqadiisa uusan u imaan karin ayay dhahaysaa guriga iskaga soo laabtay. asxaabteeda waxay ogaanayaan inuu baajiyey daydkii. Atooraha iyo tiimkiisana waxay ku guuleysanayaan systemka inay hagaajiyaan waxaa soo wacay lambar maalinkaas waxay balansanayeen Tiriisha sidoo kale daydka uu baajiyey andan asxaabteeda saamku u fiirsan kan jawiga ay ku soo bedelinayay waxaan arkaynaa isbitaalka soo joogo waxaana la abaabaa in qaliinsi degdeg ah loogu sameeyo isna wuxuu dhahay wax kastaan ayaa xalnaa isbitaalka loo wareejin rabo la ii sheeg. waxaa galaynaa xusuus waxaa ogaanaynaa maalin hooyadii inay dhahaysa abaha waxuu soo daahaysa u dabaaldegay abiis ayay wacay laakiin waxaa silan filan guriga soo galaya abiis wuxuuna u sheegay in qof uu baabuur kusoo dhuftay soona qof uu sheegin iyagana waxay isku dayeen inay booliska waxay intay boolisku waxa uu sheegay waxaa meesha ka baxsanaya Atooraha abiisa. kusoo dhawaada qaybtii 6 iyo musalsalkeena waxaa arkaynaa Atoorehen oo guriga kusoo laabtay wuxuuna ka imaaday shaqo hooyadiis wuxuu weydiinayay inay cashaysay isna iyadana waxay ku dhahaysaa adiga ayaa ku sugayay isna wuxuu dhahay cuntadaada ka fikir waqtigeeda ku cun wuxuuna u sheegay inuu iska dayn doono jaamacadda uuna shaqayn doono. halkale hooyadiis waxaa kusoo boodaya xanuun waxaa la keenaya isbitaalka waxayna dhahaysaa waa inaan ka baxnaa lacag maysan isna wuxuu dhahay wiil saaxiib isku galaasnaana ayaa lacag kasoo deynsaday waa lagugu daaweynaya meel u bixis meel hooyadiis sidaas ayayna hooyadiis koomu galaysaa. dhanka kale xusuusta kasoo laabanayna waxaa arkaynaa Atoorehen guriga soo socday Tiriishadeena waxay dhahaysaa guriga ma imaad isna hadda albaabka taaganayo wuxuuna dhahay caasha ayaa ku wadaya soo bax hal sax ayaa haysta saaxiibadeena jaabo way diyaariyeen waxayna soo aadaysaa Atooraha si ay iskula casheeyaan waxayna weydiinaysaa in dhibaato ay ka hayso dhanka shaqada sina wuxuu dhahayaa maya ma faraxsanid waxa uu agtay inay murugaysantahay ayay dhahaysaa laakiin isna wuxuu dhahay aniga waa faraxsanaa waxay dhahaysaa isugu waxayna usoo sameynaysaa ninac suuf wuxuuna soo aadayaa meesha wuxuuna arkaya dejintii inuu soo xiratay kabacdi waxay ku wareejinaysaa ninac suufkii u samaysay waxayna dhahaysaa cunugaaga waxaa ka farxinaysa camal iska dhigiso ayuu dhahay iyadana waxay dhahaysaa cunug weynaada ayaa tahay wuxuuna dhahayaa jaceylkayga waa aqbasha ayaa u malaynaya iyadana waxay dhahaysaa maya laakiin sabab bay dhahaysaa maxaa yeelay dejintii kuu keenaya soo xiratay ninac suufna qof saaxiibtana waxaas uu sameynaya ma jiro iyadana maya ayay ku dhahaysaa. maalinka kale waxay soo aadayaan dhanka iyo siminaar ay rabtay in cashirkiisa ay dhageysto Atoorahan silan filan ayuu imaanaya saaxiibteena sawir ayay ka qaadaysaa waxayna u diraysaa labadeeda saaxiib kale qolkiis la degan yahay laakiin iyaga waxay dhahaan aad ay isku qurux badan yihiin isku soo baxayaan isna wuu soo dhawaanaya. xusuusta ku laabanayna walaalkeed wuxuu dhahay walaashay wiil ayay jeclaatay ayuu in la qiyaamo marow sidii hore camal ayuu dhahayaa walaalkeed andan waxay u soo dhawaanaysaa wayna shuminaysaa wuxuu ku dhahayaa sabab markaas waxay dhahaysaa adiga ayaa sameyn rabay waxaa soo galaya macalinkii siminaarka soo jeedin lahaa andan wuxuuna u sheegaa waxyaabaha loogu baahan yahay waxyaabaha siminaarka ayaa soo dhamaanaya waxay soo aadayaan banaanka waxaana maalinkaas banooni lahaa wiil iyo saaxiibkeeda meesha ayayna saaxiibkeed ku taageeraysay waxaana meesha wax ku gaaraya Jianmin waxaana loo baahanaa qof oo lagu bedelo waxaana dhankaas lagu bedelaya Atooraha wuxuuna u dheelinayaa goolal badan kooxda Jianmin andan waxaa meesha kusoo dhamaanaya ciyaarta waxaana guusha ay raaxaysaa kooxdii Jianmin ama Atooraha uu gadaal dambe kusoo biiraya. Jianmin wuxuu haystay in Sanji walaalkeed uu yahay laakiin waa laga jahil bixinaa dhanka asxaabta waxay isweydiinayaan waqti waxay qaban lahayd samariga waxay dhahaysaa shirkadda ayaa gamekeyga ka heshay waxaa u baahanaynaa fursadaas ka faa'iidaysatan waxay dhahaysaa waxyaabaha aan u baahanahay inaad diiradda saaro halka
wiwi ee saaxiibka ayaa samarka isla qaadanayna Sanjin waxay soo wacaysaa walaalkeed waxayna u sheegaysaa inay rabto magaalada inay joogto tababar isna wuxuu dhahay may ku soo laabo magaalada gabadhana waxay ka heshay miskiin waxay ka heshay Janmin waxayna u soo dhiibeysaa balmaatay lugta u fiican si uu iskaga mariyo isna wuxuu dhahay ugu mahadcelinaa saaxiibadeed waxay dhahayaan taa ka heshay ma u sheegtay waxay dhahaysaa waqti ku habboon ayaa u sheeganaya andana waxay ku heshiinayaan midaas dhanka kale Atooreen wuxuu la soo hadlaya Trisha wuxuuna ku dhahay caawo fursad ma haysa iyadana waxay dhahaysaa fursad ma hay bal laakiin qof ayaa surprise u sameynaya andana isaga ay u imaanaysaa waxayna ula dabaaldegaysaa dhalishiis waxayna u soo wadaysaa wada casheeyaan waxayna dhahaysaa asxaabtaasoo kuma hambaliyeen isna wuxuu dhahay iyaga xataa ma xasuusantooda dhalashadooda iyadana waxay dhahaysaa inay walaalkeed la hadasho andana walaalkeedna wuu soo xasuusnay wuxuuna soo wacaya Atooreen wuxuuna u hambalyeynaya dhalashadiisa wuxuuna dhahaysaa walaashay hadiid ma kuu keenaha ayuu dhahaya andana ana iga socota ayuu dhahaya iyadana beenta waa ay dhahaysaa isla socotiin ha caawa isla soo casheen rabaa ay dhahaya waxayna meesha ugu aqbalaysaa Atooraha jaceylkiisa andana waxay u soo sameynaysaa baasto waxayna bilaabaysaa inay wax niyeysa dhahay isna wuxuu niyeysanayaa waxay dhahaysaa niyadaada waa laga aqbalay jaceylkaagana waa ka aqbalay andana waxay isku soo raacayaan xeeb si ay u sheekaystaan hooyadiis ay dhimatay aabihiisna uu koomo ku jiro nolosheeda kusoo dhawaayuu leeyahay baawar ayaa haystaa gurina ma haysta lacag ayaa meel dhigtay iyadana way ka aqbalaysaa andana subaxii dambe waxay dhahaysaa waxa u socdaa maktabadda isna wuxuu dhahay soo baxay maktabadaha korontooyinka way ka tagsan yihiin gurigiisa ayuu keenaya wuxuuna bilaabaya inuu casharadaada baradho miis ayaa kuu sameeyey ana adaa ku fiirsanaa iyagana soo ima fiirsan ayay dhahaysaa dhanka kale waxa usoo laabanayna xasuus maalinkii intuusan dhalashadiisa gaarin waxay u dalabtay keeg waxayna soo wacday hooyadeed si ay ugu caawiso Atooraha baastada u sameyn rabtay andana wuxuu dhahayaa waa kaa tagay xaasidiyey wuxuuna usoo sameynayaa qado weyn isla qadeynaa waxayna dhaqaysaa alaabtay ku qadeeyeen waxaa qabanaysa hurdo waxayna bilaabaysaa inay seexdo laakiin waxay maqlaysaa Atooraha qajiftiis waxayna bilaabaysaa inay dhulka fadhiisto wuxuuna dhahay dhulka maxaa ka doontay waa xiiseynaya ay dhahaysaa andana waxay dhahaysaa iga fogow laakiin kama cabsanayo laakiin markay ii soo dhawaatay ayaa ka cabsada wuxuuna usoo wadaya kambaskeeda habeenkii wuxuu la hadlayaa Qayaan Fiin wuxuuna u sheegaya in gabadhii ay ka aqbasay jaceylkiisa ugu mahadcelinaa isna wuxuu dhahay magaaladaada ayaa soo socda maalinkaas waa inaa casuumaad fiican ii samaysaa dhanka kale wuxuuna dhigayaa Qayaan Fiin gruubka inuu Atooraha jaceyl samaystay wuxuuna soo baxayo Atooraha Trishada walaalkeed wuxuuna dhahay kan muxuu kaaga caawiya anaaba ka caawin lahaa dhanka kale waxay bilaabaysaa miskiin inay projectigeed ee diyaariso inay isku soo aruuriso xog Sanjin waxay u imaanaysaa wiwi waxayna u sheegaysaa inay ka cabsato markuu Atooraha u soo dhawaayay waxay dhahaysaa in xataa saas ay u iga cabsan jiray asaga laakiin kama cabsan jirin dhanka kale Trishada iyo Atooraha waxay isku soo raacayaan si ay ugu socdaan kabaha baabuurka camal andana waxay bilaabaysaa inuu baro maadaama uu asaga si fiican u kasaayo dhanka kale waxaa Trishada galaya imtixaankoodii ugu dambeeyay waxaana ay meesha kusoo banaanayaan imtixaankooda waxaana soo wacay Trishada shirkadii ay ka codsatay inay tababar kusoo qaadato waana laga aqbalaya dhanka kale waxay arkaysaa Atooraha oo la taagan gabar waxayna dhahaysaa wijaadka iyo qarisna wuxuu dhahay jaceylkeeda ogaad intaas way dilaysaa andana waxay isku soo raacayaan supermarket iyadana wiil ayaa u imaanaya wuxuuna ka codsanaya wijaadka isku darsan iyadana waxay dhahaysaa jaceyl ayaa lahaga raalnaq Atooraha wuxuu dhahay kama xun wijaad lagu weydiiyey miskiinayna waxay dadaawanaysay Qayaan Fiin fiidiyoyada ee maanta kasoo duubtay wiwiin waxay dhahaysaa maka caawiyata inaa caawiyo tan waxay dhahaysaa maya caawinaysa iyada waxay rabta samaysanaysaa dhanka kale iyagoo shir ku jiraan waxaa xanuunsanayso Siyuul waxaana u imaanaya ninkeeda wuxuuna dhahay isbitaalka ayaa u wadaya Atooraha waxaa la lahayaa sii wad shaqada Sanjin walaalkeed wuxuu ku dhahay magaalada kusoo laabay waxay dhahaysaa iyo kaas ku doqomaysan ay shukaansanaysid andana waxay dhahaysaa isaga waxaa waaye Duwanshin waa isna laakiin block ayuu saaray dhanka kale waxaa arkaynaa maalinkii koowaad ee shirkadda waxaana loo sheegaya dhinac ay fariisan lahayn ee ka howlgal lahayn qoftan iska bar waxaa la lahaa Shaasha waana madaxa qorsheynta ee shirkadda waxayna soo xasuusinaysaa habeenkii waana gabadhii ex Atooraha gabadhii jecleed gabadhii la jirtay habeenkii waxayna bilaabaysaa inay iska indhitirto Trishada iska indhitir waxaana loo dhiibaya feelal badan waxaa la lahaa soo xali koobina iga soo qaada markaas waxayna dhahaysaa haddaadan aqoon u lahayn maa weydiisa dadka kaa horeeyay waxaana u imaanaya Atooraha wuxuuna u keenaya ubax wuxuuna u hambalyeynaya maalinkii ugu horeysay shaqadeeda andana waxay bilaabanaya inay sheekaystaan wuxuuna siinaya boonbala hadday xanaaq dareentid waa inaad isaga dhirbaxda saa murugada iyo stresska oo kaaga ba'ala waxaana loo bilaabay shaqada inay ku adkaysa ayay gabadh bilaabaysaa wiilkan kalena oo Trishada la jiro waxaa la lahaa
waan shey wuxuuna gacan yuriya wiilka ugu horeeyay shirkadda kala tusaya waxaana dhahaysaa waa kuu dhamay feelalka anta ku dhiga xafiiska iigee kuwa kalena xalayaalaha tiriishada waxayna usoo dhiibaysaa tooraha iyo waxay usoo dhiibaysaa casho waxayna dhahayaa asxaabtiisna tusin wuxuu dhahaa baxay dhaaf mis wax maniila xalinaa kusoo dhawaad qaybtii lixaad ee imtixaanahayna waxaa arkaynaa tiriishadan iyadoo ku sugaysa toorahayna banaanka wuuna u imaanayaa wuxuuna weydiinaya inay maanta shaqada kusoo daashay iyadana waxay dhahaysaa maya laakiin ugu dambeyn waxay dhahaysaa shidaa laga kaa qaatay hadda daalkii dhan wuu iga bay marka adigu arkay ana jaajara u baahanaya oo dhahaya andan iyadaha ay siinaysa waxaana soo wacay marwadeeda isna waxaa loo sheegay inuu shaqada wuxuu rabaa inuu shaqada ku laabto waxayna dhahaysaa soo xala projectigaas iyadana hayay ayay dhahaysaa saaxiibkeed wuxuu sheegaysaa inuu sii seexiyay waxyar uu dhimayay subaxii markii la gaaro waxaa u imaanaya asxaabtiisa waxayna weydiinaya wuxuu qabanaya waqtigii fasaxa markay dhameeyaan projectigan saaxiibtan waxay leedahay waxaa aadaa qoraxda saa usoo dawaato waraan wuxuu dhahay saaxiibtii ayaa waqti lasoo qaadanaya subaxii markii la gaaro waxaa arkaynaa tiriishadan wuxuu ku sugayaa banaanka andan waxay isku soo raacayaan goobta shaqadeeda soo ogeey waxayna weydiinaysaa dharka wuxuu iskaga bedelo wuxuuna dhaha qoftaa la socotid ugu maalinkii dhaan hadda ay la joogto habeenkii waa ku daaleysaa midaas asna wuxuu dhaha kumanaanka yaankaaga adiga ee kaafiya wuuna macsalaameyna waxaa kaloo arkaynaa shiisha ayuu waxay aragtay toora ee tiriishada isla socdaan waxayna wacaysaa saaxiibteed waxay dhahaysaa shimika ugu dambeysna isla hadashayiin waxay dhahaysaa maxaa warkaas ku keenta waxay dhahaysaa waxaa ku arkay banaanka shaqadeeda andan waxay dhahaysaa haye waayahe isla soo casheyna iyadana waxay dhahaysaa hawa cashada tiimka la soo casheynaya dhanka kale tiriishadeena shaqadaada wax may ka dhacday ayuu dhahaya iyadana waxay dhahaysaa maya laakiin way waxaysaa xafiis marka waxay daatadaada kaliirma afartan waa ina haween ka dhigtaa wiilkan kalena wuxuu dhahaya ukaadi gabartan shaqada way ku cusub tahay tababar leh waaye saanan ha ugu qaylin mid kale tiriishada waxay isku dayaysaa inay waxyaabiyo laakiin waxay maqlaysaa iyadoo dhahayso waxay iska dhigaysaa shiisha ayuu iyadoo dhahayso waxay iska dhigaysaa mid wax taqaano aan nimanka naagaha iyo nimankooda ka dhacda ayay dhahaysaa dhankale xaflad habeenkii ayay ahaayeen waxayna bilaabsay inay meesha ku xajisto wuxuu sheegaysaa toora wuxuuna dhaha cudurdaar soo samaysa iyadana cudurdaarkeedu samaysna kambaska waa laga xir rabaa ayadha sidoo banaanka soo bixiso way arkaysaa jiyan waxayna dhahaysaa gabar sidaada camal inay nolosheed baabaada marwaa bii isbitaal ayuu ku jiraa 100,000 oo qarash ayuu sanadkii ku qarash gareeyaa iyadana waxay dhahaysaa aniga ku qarash gareynayo waxayna iskaga soo tagaysa waana dila ayay dhahaysaa aabihey ayuu dilay handan iyada midaas ka fikiraysa toora ayaa u imaanaya wuxuuna u sheegaya maalinkeed siduu u ahaa iyadana waxay siinaysaa kaarkeed waxayna dhahaysaa lacagta ku jirto waa inaad noo keedisaa wax walbana anaa kula xalina waxaa rabaa inaad dareentid inaanna wax ku ahayn aanay ku tiirsanaan kartid saaxiibadeed waxay dhahaan soo baxa soo wadaqadeyn waxay dhahaysaa anaa soo baxa laakiin wuxuu soo dhiibaa toora qado hadana iyadana mahad celinaysaa waan u sawiraysaa habeenkii wuxuu kasoo doonaya shaqada si uu kambaskeeda u geey laakiin walaalkeed ayaa soo baxay wuxuu dhaha waxaa ujeedaa gabar kambaska u sii socdo wiil gacanta ka wada laakiin walaalkeed uu imaanaya wuxuuna dhahaa saaxiibka sheegaystay andashiyo miya saaxiibkeega miya isin wuxuu dhiyay saaxiibkeedna wuxuu dhahay tee toora ah orod wax walba keenaqnaa laakiin wuxuu isku bilaabayaan dagaala tooraan si xun ayaa loo dilaa ugu dambeyn waxay bilaabayaan inay sheekaystaan wuxuuna dhahaa walaashay meeqsana ayaa meeqa bilood ayaa isla socotay isna wuxuu dhahay wallaahi 3 bilood walaal ayuu dhahay markaas meel xun ayaa iga taabtay ayuu dhahay waxayna isku soo raacayaan dhanka iyo guriga toora walaashiis ayaa soo wacayso andan maka qabanaya toora tiriishada saaxiibkeeda lasoo hadlayso toora andan wuxuu dhahaa waxay dhahaysaa ayaa lasoo hadal markaa guriga tagtay isna wuxuu dhahaa ciise haye waxayna sheekaysnaa labadood waxaan ka arkay inay heshiiyeen wuxuu imaanaya guriga wuxuuna rabay inuu firiijka wax kala baxo laakiin saaxiibtii ayaa u geliyay meeshaan taa ayuu dhahayaa tiriishadana waxay sugaysaa koolka toora waxayna ka wacaysaa kool video laakiin maadaama si ujeedaa waa laga gaarsiiyey wuxuu dhahayaa dharmooti andan waxay iskula hadlaan voice call ama koolka caadiga wuuna u sheegay wax walba inuu keenso wixii dambe wuxuu u imaanaya shaqada wuxuuna dhahaa ergab xun ayaa ugu dhaha laakiin waxay arkaysaa juugta gaartay waxayna soo aadaysaa dhanka walaalkeed oo jooga wuxuuna dhahaysaa waaya waxaan ugu samaysay hadda ka bacdi walaashaada miyo xiriirkeeda meesha ayuu ku dhamaaday ayay dhahaysaa wuu ka xumaanaya midaas laakiin markii dambe wuxuu bilaabaa toora inuu heshiiskii ani xitaa waxaa ku dhuftay ayuu dhahayaa iyadana waxay dhahaysaa mistilaysin hayay labadiina istila ciyaar daatay markii dambe waxay meesha ku bilaabaan faar romantic isna wuxuu dhahaa nagadaaya waxaan gabadhaan suuraha bari waxaa arkayna habeenkii wuxuu dhahay xaqa ayaa ku fiicanaya tiriishada walaalkeed wuxuuna dhahay ifiir isna waa tooraha ugu feerayaa
wuxuuna dhahay bal maanta iska mar saaxiibtay beri maxaa ku dhahaya wejigii markaysa aragtay ayuu toora ku dhahaya dan wax ma iga galan ayuu dhahay habeenkii dharka ayuu wuxuu u keenay kabacdi qolka ayuu kasoo xirnaa fadhiga seexa ayuu dhahaya hadda waxaa la gaaray habeenkii dambe shaqada markuu kasoo wuxuu dhahay fursadan waa gaaray waan shumnaa laakiin sanjii walaalkeed wuxuu dhahay waxaan naga daaya andano su-aala wuxuu dhahay guriga ayaa ku geenaya toora iyo sin wuxuu dhahay shaqada habeenkii qabanaysa inaan soo arkaya rabaa xafiiska isku soo raacayaan kabacdi wuxuu dhahay toora tiriishada walaalkeed wuxuu dhahay maxaa dhibkan waxaan u maris walaashay darteed miyaa isna wuxuu dhahay saa wax shoobin iyo wax walba uu samaysid isna may gabadha oo meeshaan ka shaqeysa ayaa xanuunsantahay subax ayuu dhahay subaxii markii la gaaro waxay dhahayaan asxaabtiisa xalin inta maa seexatay soo doontay shaax wuxuu arkayaa wiil dhahay shalay wuxuu ku arkay saaxiibta KFC waxayna isla hadlayaan gabar wuxuu ogaanaa inay Jian Hiin ay tahay wuxuuna dhahay darteed wax walba uu samayn karaa haddana mar kale dhankeed soo aadid booliska ayaa kugu dacweynaya ayuu dhahayaa waxaa loo baahnaa fikrad si xayeysiintooda ay u helaan qofka u maalgeliyay inuu ka helo fikradaas shishay ayaa fikrad soo jeedinaysa laakiin ma laga helaa laakiin waxaa la weydiinaa dad kale doo qof fikiraha laakiin saanjiya hadlays waxayna u sheegaysaa xayeysiintooda inay sheeko diyaariyaan kabacdi productigooda ay ku xayeysiistaan wuuna ka helaya madaxa shirkadda andanimo hooyadan waxay dhahaysaa fikradda hayso waxaa loo baahnaa inay ii sheegto maadaama aniga gacanyaradaada ahay ilaa maxay ka taqaanaa naag nimankan dadka kala dhacdo shirkadda maxay ka taqaanaa nidaamkeeda ayay dhahaysaa dhan kale walaalkeeda u imaana wuxuuna dhahay magaalada waa ka tagay raba beri in waxay dhahaysa wax yar noola sii joogi ilaa 2 maalmood magaalada kuusoo dalxiisna isna wuxuu dhahay waxaa iska dhig shaqaa iyo taalantan uu ka tagaya habeenkii dambe waxaa soo raacaya tooraha wuxuuna kasoo wadaa meesha shaqadeeda wuxuuna dhahay saaxiibtii maxyaalaha culeysay ayay saaraya in waxay dhahaysaa waxaas dhib malaan dan uu dejinaya wuxuuna dhahay iskaga takatayaalahan dhan ay dhib ku dhibaayeen waxay dhahaysaa caadi waaye dhan kale waxaa arkayna wuxuuna keenay kambaskeeda walaalkeeda isla hadlaya wuxuuna u sheegay inay beri bixi rabto maalinkii xigay waxaa imaanaya maalgeliyaha shirkadda markaas kabacdi waxay u sheegayaan fikradooda maalgeliyaan wuxuu dhahay lacag badan ayaa ku baxaya isna wuxuu dhahay wax badan bixisay wax fiican kuu soo gala intan uu ogolaanaya maalgeliyaha asxaabta kale waxay ugu hambalyeynaya tiriishadan saanji waxyaabaha ay samaysay dhan kale tooraha soo wacay maadaama uu guri kale oo diyaariyey ayna kambasku u dhow yahay wuxuuna tusaaya tiriishada si uu u kala tuso wuxuuna ku wareejinaya furaha guriga city dhan kale waxaa arkayna iyadoo kambaskeeda joogto waxaana ka halaabayo mukeefka waxayna waceysaa iskuul imaam kambaskeeda qofka maamulaha ka wuxuuna sheegayaa in shaqaalayaasha dhan ay fasaxan yihiin waxay waceysaa toora wuxuuna keenay guriga cusbana ee diyaarsadeen labadooda wuxuuna soo baxaysaa qolka fadhiisiya waxyaaba u diyaarsada toora laakiin wuxuu dhahay kaali geemkan ayaa ku baraya wuxuuna bilaabay inuu geemka baro laakiin waxay dhahaysaa waa sii seexanaya waxayna soo aadaysaa qolkii weliba iyadoo dareemaysa khajilaad iyo xishood subaxii waxay u diyaarinaysaa tooraasha quraacdiisa wayna baxaysaa waxayna dhahay saaxiibtada ayaa ku diyaaray dalxiiskeena iyo waxyaabaha ku dalxiisi lahayn waa keenta fasaxaanaan isna uu fiina laakiin meelo kale ayuu u qorsheeyey habeenkii markuu imaado xil dambe wuxuu arkaya tiriishada oo seexmara ayuu ku dadayaa uuna shuminayaa subaxii dambe isaga wuxuu jiray shaqada wuxuuna usoo dhiibay casho waxayna dhisaa nima dalbanin laakiin way ka qaadaysaa wuxuuna diraysaa inay cashada soo gaarta toora maalinkii u dambeeyey ee shaqadeeda waxay siinaysaa asxaabteeda hadiyadooyin waxayna wada qadeynaya waxayna u mahadcelinaysaa waxyaaba u sameeyey maamulaha shirkaddan wuxuu dhahdaa wax ii baahdeen waa isoo wici kartiin dhan kale tooraheen waxaa arkaynaa isagana inuu geemkooda uu sii kobcayo waxayna ugu hambalyeynaa midba midka kale waxayna isku hambal labadii sano ee soo dhaafay inay qabteen wax fiican waxay u imaanaysaa tiriishada shiishaayu waxayna ugu mahadcelinaysaa si awal waxay ahayd inaad taxadar la-aan ahaa andan hadda noqdo qof fiican oo wax walba fahansan wayna ugu mahadcelin saaxiibtaada waxay dhahaysaa hadday saaxiibtaada jecesheen digtoor maskaxda ogey anna qof ninka ma dhicin dhan kale tooraha waxaa loo sheegaya in madaxa barnaamijyada u helaan dhawaanaha buumana inuu lagu bedeli doono maadaama isaga baxe uuna ku meel gaar ahaan isna wuxuu dhawaan u sheegaa dadka madaxda sare dhan kale toora wuxuu ku raacaa tiriishada maadaama dalxiiska iyada ay rabta laakiin si nasiib xun maxaa imaanaa maalinkaas roob maadaama xeebta agteeda ay rabeen inay ka samaystaan waxayna ka samaysanayaan guriga waxaa soo wacay soodeed waxayna u sheegaysaa inay ka dhexsan waxayna
hooyadeed u sheegaysa inay teendho guriga ka dhex samayso. Hooyadeedna tus ayay dhehaysaa wayna ka kala tusaysaa. Aniga asxaabtii ayaa samaysnay ayay dhehaysaa. Waxaa meesha yaal sawir Atoora iyada inay qarinayso buug kor ku faysaa. Dhanka kale kusoo dhawaada taxneeni qaybtiisii ugu dambeysay. Waxaa arkinayo Jihin oo soo ogaatay in design la qabanayo college-ka. Waxayna go'aan gaarayaan idii Sanji inay ka qayb galaan tartankaasi. Waxayna bilaabaan inay isdiiwaangeliyaan. Dhanka kale miskiini waxay u keenaysaa Janmin flashkii fiidiyoogii ay ka duubtay. waxaan u sheeganaysaa jacaylka iyada u qabtay, laakiin iyada waxay ku dhehaysaa si dhibin keliya waxaa rabo inaan kuu sheego. wayna kasoo tagaysaa. waxayna dhehaysaa iga tag waaba nafsee. wuxuuna eegayaa falaashka. Jihin waxay bilaabaa inay ka fikirayaan Sanji designkii ay diyaarin lahaayeen. sidoo kale Sanji waxay soo aadaysaa magaaladeedii si ay hooyadeed waalidiinteed ay waqtiga u soo qaadato maadaama la joogo waqtiga fasax. waxaan soo doonaya walaalkeed. waxay hooyadeed u imaanaysaa si surprise ah. hooyadeedna waxay ku dhehaysaa soo dega marka la gaaro waqtiga cashada. waxay bilaabaysaa Sanji inay wacdo Dandanshu. wuxuuna u sheegay inuu aad ugu xiisay. waxaa maqlaysa hooyadeed. waxayna ogaanaysaa gabadheed inay jacayl samaystay. Tooraan wuxuu dhahayaa waqti la qaado waalidiintaada, aniga ayaa sida ugu dhaqsiyaha badan imaan doono. waxay bilaabaysaa xasuusihii iyo Dandanshu oo siin jiray inay soo bixiso ayna banaanka u soo baxsata maadaama ay ka duwantay dareenkii dareemaysay iyo maalinkaas iyo hadda. dhanka kale tiriishada hooyadeed iyo aabaheeda hooyadu waxay u sheegaysaa in gabadheeda ay samaystay jacayl. waxay dhahayaan wiilka intuu la joogaa iskuulka ma isla dhigtaan. waxay u imaanayaan tiriishada si ay u weydiiyaan wax ku saabsan xogtaas, laakiin iyadu way ka cararaysaa. waxayna bilaabaysaa inay iska maamahayso. dhanka kale Atoora wuxuu kasoo tagayaa meeshii uu ka shaqeynayay. wuxuuna soo aadayaa magaaladii ee tiriishada ku nooleed. Sanji waxay ogaanaysaa in walaalkeed iyo Atoora ay israacooyin isla soo casheen rabaan. waxayna dhehaysaa walaalkeed si uu soo madashay gamka waa lagu daama kuu masaajay. dan wuxuu dhahayaa hayway waa ku wadaaya. dhanka kale wuxuu dhahayaa walaalkeed awal waxa uu la dhaqmi jirtay Dandanshu sida walaalka camal, laakiin hadda waxaa dhacayaa garan lahay. dhanka kale waxaa imaanaya Atooreena. waxayna bilaabaysaa inay gadaal ka raacdo baabuurka. isna wuxuu iska dhigaya inuu raaci radan gadaal uu ka raaca. wuxuuna ula dhaqmaya sidii daraawal camal. isna wuxuu dhahay daraawalkii maahay. waxayna imaanaya ugu dambeyn maqaaxidii ay ku wada casheen rabeen iyagii asxaabta. wuxuuna dhahay wiilkanid gabadhan Soomaatii walaashaada ahayd mise beena ay sheegaysa. isna wuxuu dhahay wax walba gadaal ayay iska bedeleen. wuxuuna bilaabaa qayaan fiinaysan inuu sheegay inuu aaba naqan rabo mar dhoweyn ugu hambalyeynaya midaas. dhanka kale Tooreen wuxuu soo wadaya tiriishadeena gurigeeda. wuxuuna dhahayaa waxayna weydiinaysaa in qamriga xasaasiyad qabo. isna wuxuu dhahay aan tijaabiyo. dhanka kale waxaa arkaynaa waxay imaanaysaa guriga hooyadeed ay arkaysa. hooyo baad banaanka miyay jirta ay ku dhehaysa hooyo maxaa qashin ayaa soo daanaya dhehaysa. wayna maxsalaameynaysaa. hooyadeed qolka ayay ugu imaanaysaa. waxayna dhehaysaa wiilkaas jeceshihiin inaan lamaankaaga wataan taashiw soo maahan. waxaa u maleynayaa naxariistii walaalnimada uu ku muujinaya inaad jecel u fahantihiin. waxay dhehaysaa jecel muu fahmin iyo jecel sax ah waa walaalnimo muu fahmin jecel sax ah waaye. faris waxay ka hadlaynaa alla. dhanka kale subaxii dambe waxaas arkaya tiriishadeena Atooreen. wuxuuna dhahaa waxa u baahan inaa waalidiintaada u imaado ina diyaar waa maalin ayaa wada qadaynaynaa ayay dhehaysaa. dhanka kale Atooraha waxa uu imaanaya guriga Sanji. aabaheen wuxuu weydiinaya aabbihiis siduu yahay. wuxuuna dhahayaa ilaa hadda waa sidiisii. wuxuu dhahay nin fiican ayaa tahay gabadhiina waana u taxadiri jirta, laakiin mar dhow dhibaatada faamiligiina iyo gabadheeda saameysay. isna wuxuu dhahay sida ugu dhaqsiyaha badan waa idinka qancinaya midaas. sidoo kale waxaa imaanaya tiriishada. waxayna dhahayaa gabadheeda waxaa loo baahan yahay markaa xiriir samaysa in anaga qofka kaa fiirino. maanta waxa uu wacnay Dandanshu. waxay dhehaysaa soo iskuma ogeyn in anaga wada jira uu wacno. waxayna dhahayaa anaga waxaa u baahnayn oo keliya waxaa naga dhex guuxayna u sheegno. iyadana way ka kacaysaa meesha. dhanka kale Tooreen wuxuu ku fikiray waxyaabihii uu maanta soo dhahay tiriishada aabaheeda. sidoo kale tiriishada waxay dareemaysay ceeb iyo in Atooraha waxun lagu sameeyey. waxayna bilaabaysaa inay ka raaligeliso midaas. wuxuuna dhahayaa waxaas ani xumaan buu fahmay. waalidiintaada inay ku saxan yihiin waxay tabanayaan inay sheegaan adiga ayay kaa fikirayaan. wuxuuna u sheegay in magaaladii uu ku laaban rabo maadaama beri uu shil lahaa. iyadana waxay dhehaysaa muxuu sidaan dhaqsiyaa uu go'aansaday inuu baxo. muxuu rabaa inuu iga tago. dhanka kale subaxii markii la gaaray waxay u sheegaysaa waalidiinteed inay bixi rabto ee magaalada u laaban rabto. waxay dhahayaan sidaan banaanka. iyadana waxay dhahay waxaa u baahanaya inaa baxo. aabaheen wuxuu dhahay aniga ayaa kusii dhaweynaya. waxay soo aadaysaa dhanka iyo madaarka. waxaana soo wacaya Atooreen. wuxuuna dhahayaa aniga ayaa meesha kuu imaanaya Yuusuf intana wuu imaanaya. waxayna bilaabaysaa inay u sheegto. waxayna dhehaysaa waxaa u baahanaya wax muddo sanado kaa qarinaya inaadan weliga ogaanin aan rabo.
waxayna u dhiibaysaa 2 warqadood waxaana ku qoran labada. Waxaan u maleynayaa in Duwad heshiis ay jeclaaday waana markii ay baranay magaciisa sida loo isbeydiyo wuxuuna akhrinayaa mid kale oo ah in lacagta ka dhiibi doono markaa weynaada lacagaha deymaha lagu leeyahay. Waxaana dhahayaa maxaa mar walba igu sheegi weysay. Wuxuuna soo xasuusinayaa habeenkii ay dhahaysay qof ayaan jeclaaday. waxyaabahaas ayuu ka fikiray tirishada oo imaan waxay dhahaysay wixii maanta ku sheegay inaad saas ugu murugtid maahan kaliya waxaa rabay inaan kuu sheego mooye inaad ka murugtid ma ahaynin. wayna ka raaligelinaya midisna wuxuu dhahayaa sanadihii kusoo tagay ee kaa murjiyay waa ka raaligelinayaa. dhan kale waxay iyagii asxaabteedu isku diyaarinayeen sida ku diyaarin lahaa desaynka tartanka ahaa. waxaa arkaynaa Siyuul in hadiyad loo keeno waxaan u keenayaa ninkeeda wuxuuna dhahayaa Deesho ayaa igu qalqaaliyay sidoo kale wuxuu iskugu imaanayaa wuxuuna sheegay inuu u baahan yahay inuu iskaga tago shaqada maadaama uu rabo in magaalada tirishada uu ka bilaabo shaqo cusub. waxaan dhahaa haddii go'aankaas soo gaarto waa ku uraacan laakiin aad ugu xunnahay nasiib waa inaan kuleen mar walba diyaar ayaa ku nahnay. wuxuu isbitaalka u imaanayaa aabihiis wuxuuna dhahayaa waxa u baahan waxyaabo badan oo mar muddo dheer ka qarinay inaan ku sheego hooyo mar hore ayay dhimatay sidoo kale deymiya lagu lahaa dhan waa ka guday maanta waxaa fiicnay inaad aragtid rafaadka ama daraadda ay hooyadeedu u dhimatay. wuxuuna u imaanayaa tirishada waxay dhahaysaa dhibaato ayaa dareemaysa ama dhib male waa ka baxaysaa. waxayna isku soo raacayaan dhanka iyo qabriga hooyadiisa wuxuuna dhahayaa waxa u baahan hooyo magaalada inaad iskaga tago magaalo kale nolol cusub kale waan kuu soo imaan doonaa si kuu soo booqdo. deymihii aabba lagu lahaana mar hore ayaa ka guday. midda kale Sanjiin waxay dhahaysaa wiilkaa wax dhibaato ma arki doono aniga ayaa garabkiisa taagan aadna ayaan u jecelnahay. waana wiil aad u wanaagsan oo geesi ah waad ku farxi lahayd haddii aad noolaan lahayd. sidoo kale wuxuu dhahaa Tooraha gabadhii yareed ee agteeda ku baashaali jirta maanta way weynaatay nolosheeda ayayna ifisay mugdigii ayay iga saartay. wuxuuna sheegay inuu ka tagay rabo magaalada oo magaalada uu laabanayo muddada 2 sano oo sugayna umay shaqadiisa ka asaasay rabay inay ogolaanaysaa. waxaan isku soo raacay xasho waxaan dhahaysaa xiriirkeena waa inaan xoojinaa waqti walbana video call iskula soo hadalnaa way ogolaanaysaa. waxaan la gaaray habeenkii ugu dambeeyay uu ka tagay magaalada. waxaan isku soo raacay madaarka wuxuuna bilaabay inuu macsalaamay laakiin ma baahan inay iga tagtid ayay dhahaysaa. isin wuxuu dhahaa mar walba fasaxeed baa ku imaan doona naftaada iga taxadiraysan iyaduna waxay dhahaysaa waqtiga cuntadaada ilaali. sidoo kale waxayna isku diyaarinayeen inay diyaariyaan tirishadii asxaabta ee disaankii tartankii Toorahan wuxuu samaysanaya magaaladii ay u imaanaya wuxuuna diyaarsanaya meeshii ka horgal lahaa wuxuuna diyaarsanaya asxaab kale oo la shaqeysa. sidoo kale tirishadii way codsanayaan tartanka wayna gudbisanaya. waxaa magaalada imaanaya Jaan Juan wuxuuna dhahaa maadaama adigu caawina waxaa loo baahnaa inaad madaarka iga soo doonto waxaa soo wacaysa tirishada Tooraha intan waxay dhahaysaa maxaa guriga ma imaanin miya wuxuuna dhahaa weli ma imaanin iyo salaam asxaabtaada ee gaarsiina ka masiirsan ayay dhahaysaa. wuxuuna imaanayaa maalinkii dambe guriga tirishada si uu ula kulmo waalidiinteeda. wuxuuna weydiinayaa tirishada aabaheed inuu u helay meel uu shaqadiisa ku bilaawdo. wuxuuna dhahaa waa u helay wuxuuna dhahaa wax walba xaliye dadkii faamiligii dhibaatada ay ka sameeyeen maho hadda way nabadgeliyeen. gabadhiin mugdi ayay iga saartay mar walba mudnaanta koowaad ayay siisay. iyagana waxay dhahaa waxay noo sheegtay oo keliya arrimaheed saas ayaa ugu fikirayeen. wuxuuna dhahaa wax daacadnimo ayaa ka muuqato. wuxuuna dhahaa waa gabadhiin fiicnaanta ayay idinka keentay guriga ayuu imaanaya waxayna isla hadlaayaan tirishada waxayna weydiinaysaa maanta saan wuxuu ugu faraxsan yahay. wuxuuna dhahaa waalidiinta way aqbaleen jaceylkeena. mid kale iyadana waxay u sheegaysaa inay qaadan doonto awaadka disaankii ay sameynayeen. wuxuuna ma imaanaya dhahaysana wuxuu dhahaa ma imaan karin maxaa yeelay shaqo ayaa maalinkaas ah leeyahay dad ayaa la kulmi rabaa. iyadana ayay dhahaysaa waxaa ugu imaanaya si lama filaan ee gadaasheed ayuuna soo istaagayaa. waxayna dhahaysaa maxaa meeshaan u keenaysan wuxuu dhahaa waxaa u egtahay inaadan ii xiisin. iyadana waxay dhahaysaa ii sheeg maxaa u imaatay wuxuu dhahaa meeshaan waa nagula casuum idinka ayaa awaad kafiiskanisiin rabnaa iyo abaalmarinta. waxaan bilaabanaysa xafladda waxaana la soo bandhigayaa disaanka ee tirishada ay soo bandhigtay waxaana ku saabsan yahay labadooda qisadooda jaceylka. wuxuuna ka abaalmarinayaa midaas waxayna wada galayaan sawiro dhammaan guuleystayaasha. waxay waqtiga siduu day waxaa la gaarayaa maalinkii qalin jebintooda waxayna ku wada baashaalayaan xeebta waxaana si wada jir ay u galayaan sawiro iyo waxaana ka qaadayaa Tooraha waxaana bilaabanaysa mid kale uu xiisi doona halkaasna wuxuu Tooraha ugu codsanayaa guur. waxaan meesha jooga waalidiinteeda si farxad leh waxayna ka aqbalaysaa guurkaysa. salkeena saas farxad leh ayuu noogu ilaalay insha Allah.